maanta waxaan sharaxi doonaa taxanaha Kooriyaanka ah ee la yiraahdo Squid Game labadiisa xalqadood ee ugu horeeya oo lagu magacaabo Red Light Green Light iyo Hell waana kan musalsalkii ee daawo oo taxadar subscribe saar channelka like na saar videogan waxa laga yaabaa inay kula fududahay laakiin anaga qiimeyn noo leedahay Song Gyun waa nin dhexe ku jira waxaanu guri kula nool yahay hooyadii Gyun waxa lagu leeyahay deen aad u fara badan waxaanu leeyahay bilowda khamaarka taasi oo xaaladooda dhaqaale ka sii dhigtay qaar aad u faqri ah maalin isagoo quraacanaya ayaa Gyun hooyadii waxay siisay qadar lacag ah si uu inantiisa oo lagu magacaabo Gayon uu dhalashadeeda casho kaga farxiyo ugu soo iibiyo Gyun xaaskiisii hore waxay guursatay nin maalqabeen ah badanana uma ogolaato inuu inantiisa arko sidaa daraadeed Gyun wuxuu ku faraxsan yahay inuu inantiisa arko maalinta dhalashadeeda hooyadiina wuxuu weydiistay lacag dheeraad ah si uu inantiisa Gayon sidoo kale hadiyad ugu soo iibiyo ugu horeyntii waxay u sheegtay inaanay lacag hayn balse haddana ugu dambeyntii ileen waa hooyay waxay ugu dartay waxoogaa kadib markay ka tagtay Gyun wuxuu si xeeladaysan u helay kaarkeedii waxaanu u baxay si uu lacag badan uga soo baxo isagoo uu la socdo saaxiibkiisii ay wada khamaarayeen inta kadib waxay lacagtii khamaarka dhigteen tartanka fartaha balse nasiibkoodu waa xumaa ciyaar kastana way guul dareysanayeen kamanay joogsan inay lacagta sii dhigtaan xataa iyagoo ku dhawaaday inay gebi ahaanba lacagtooda khasaaraan ugu dambeyntiisa Gyun wuxuu ku guuleystay lacag aad u fiican waxaanu u farxay si aad ah xataa wuxuu lacagtii wax yar oo bakhshish ah ka siiyay gabadhii lacagta u dhiibaysay farxad awgeed waxaanu dibadda u baxay isagoo nasiibkiisa u dabaaldegaya isla markii uu baxayba Gyun wuxuu arkay rag cadhaysan oo u soo socda dhankiisa waxay amaahiyeen din aad u fara badan isagoo ka baqanaya in lacagtan uu helay ay ka qaataan wuxuu dib ugu dhex cararay dhismihii waxaanu si shil ah ugu dhacay gabadh raggii deynta ku lahaa ugu dambeyntii way qabteen waxaanay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii aanu lacagtooda u soo celin Gyun oo absanaya ayaa isku dayay inuu lacagtii uu ku soo guuleystay siiyo balse wuxuu ogaaday in jeebkiisu uu maran yahay wuxuu xaqiiqsaday in gabadhii markii ay isku dhaceen ay jeeb siibtay lacagtiina ay ka xaday si kastaba ha ahaatee raggii deynta ku lahaa waxaa maydaneen waxaanay bilaabeen inay garaacaan Gyun waxay sanka ka geliyeen mindida yar iyagoo ku sababay inuu dhiig ka yimaado waxay u sheegeen inay bil kadib ku soo noqon doonaan waana ka tageen hadda ninkii Gyun shilin ma haysto waa eber sidaa darteedna wuxuu ku noqday gabadhii uu lacagta yar siiyay waxaanu weydiistay inay lacagtiisa u soo celiso wali ma haysto lacag ku filan oo uu gabadhiisa hadiyad ugu iibiyo sidaa darteed wuxuu isku dayay inuu mid uga soo guuleysto ciyaarta mishiinka boombalada balse nasiib darro hal mid xataa uu ku guuleysan kari waayay inuu ka soo saaro gudaha mishiinka wiil yar oo agtiisa joogay ayaa caawiyay ugu dambeyntiina wuxuu ku guuleystay hadiyad yar waxay u dabaaldegeen guusha yar inta kadibna Gyun wuu ka tagay kadib markii uu ka yaraa u mahad celiyay inantiisii wuxuu u qaaday meel wax laga cuno labadoodiina halkaas ay waqti fiican ku qaateen inantiisa Gayon waxay ka warwarsan tahay nabarada aabaheed wajiga ku yaala taasi oo uu Gyun u sheegay inay nabaradan ay kanaaca ka qaniintay wuxuu u dhiibay hadiyadii isagoon xataa eegin waxa bogoska ku dhex jira inantii yareed ee Gayon waxa ka yaabiyay inay meesha ugu tagto leetar ama qarxiso u samaysan qaabka baaskoolada Gyun dib ayuu uga qaaday hadiyadii waxaanu u ballan qaaday inuu mid ka fiican u keeni doono sanadka dambe ugu dambeyntii wuxuu inantiisu u keenay hooyadeed waana kala dhaqaaqeen markay ismaac salaameeyeen Gyun hadda wuxuu joogaa boostashada tareenka waxaana u yimiday nin u eeg inuu habdhaqan wanaagsan yahay si fiican u labisan wuxuu Gyun ku casuumay inuu la ciyaaro ciyaar la yiraahdo dhagshi ciyaartan oo aad kaad dhinaca kale u rogayso adigoo kaad kale ku dulfanaya ninkii wuxuu Gyun u sheegay in haddii uu ku guuleysto uu siin doono 100,000 oo lacagta Kooriya ah oo u dhiganta $80 balse haddii uu guul dareysto uu wajiga ka dhirbaaxi doono Gyun wuu aqbalay dalabka intii ay ciyaarayeen Gyun wuxuu guul dareystay marar badan ninkiina marar badan ayuu dhirbaaxa la dhacay sidii dhirbaaxa loogu waday wajigiisii nabar xun ayuu ku yeeshay balse haddana taasi may joojin ugu dambeyntiina wuxuu guuleystay hal mar waxaanu helay lacagtii loo ballan qaaday inta kadib ninkii sida fiican u labisnaa wuxuu u dhiibay card uu lambar ku qoran yahay oo uu soo wici karo haddii uu rabo inuu ciyaaro games sidan oo kale ah intii uu gurigiisa ku sii socday Gyun wuxuu la kulmay islaan daaweyn taasi oo ah saaxiibkii Sang-woo hooyadii waxay ugu faantay inuu inankeedii waqti xaadirkan safar shaqo ah ugu maqan yahay dalka Mareykanka habeennimadii Gyun iyo hooyadii oo casho wada cunaya ayaa hooyadii waxay u sheegtay in xaaskiisii hore iyo qoyskeedu ay Mareykanka u guurayaan sidaa darteedna aanu mar kale arki doonin inantiisa Gayon
Guyun wuu naxay balse arrintaa waxba kama qaban karo sababtoo ah xaaskiisa waxa si buuxda loogu wareejiyay inay inanta haysato maadaama ay isaga dhibaato dhaqaale haysato. Habeennimadii isagoo quus taagan ayaa waxa uu wacay nambarkii uu ninku siiyay waxaana loo sheegay inuu soo istaago meel u dhoweyd. Bas yar ayaa soo istaagay hortiisii waxaana loo sheegay inuu gudaha soo galo. Isla markii uu galayna gaas ayaa ku baahday meeshii taasi oo ku sababtay inuu suuxo. Markii uu miyirkiisu soo noqday ee uu soo kacay Guyun wuxuu arkay isagoo ku jiifa sariir dad kaloo badanna ay agtiisa joogaan. Dharkiisii waa laga bedelay dhammaan wixii uu watayna waa laga qaaday. Qof kasta wuxuu u muuqdaa inuu u khalkhalsan yahay sida uu isaguba u khalkhalsan yahay. Qof kasta oo qolka ku jira dusha ayaa lagala socdaa waxaana meesha ugu xidhan kamarado. Guyun wuxuu la kulmay nin da ah kaasi oo nambarka 001 uu ugu qoran yahay jaakadiisa halka Guyun jaakadiisa ay ugu qoran tahay 456. Ninkii wuxuu u sheegay inuu ka cabanayo oo uu la dhibaataysan yahay buro maskaxda kaga taala oo ku sii fadaysa. Iyagoo wada hadlaya ayaa waxa dareenkoodii qabsaday dagaal meesha ka dhacay. Gabadhii markii Guyun lacagta ka haday ayaa waxay la dagaalamaysaa nin u muuqda inuu gaangistar yahay. Guyun ayaa dhex galay dagaalkii waxaana ugu hanjabay gabadhii inay lacagtiisii dib ugu soo celiso. Murankii wuxuu istaagay kadib markii ay qolka soo galeen dad ku labisan dhar guduudan iyo maaskaro. Waxay soo dhaweeyeen dadkii waxaanay u sheegeen in la ciyaari doono 6 ciyaarood 6 maalmood gudahood. Kuwa ku guuleysta 6daa geemna ay ku guuleysan doonaan lacag aad u badan. Mid ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya ciyaartani waa Sang-woo oo ah Guyun saaxiibkiisii caruurnimadii kaasi oo laga filayay inuu safar ganacsi ugu maqan yahay Mareykanka sida ay hooyadii sheegtay. Arrintuuse waxay isku bedeshay in ninkan ay raadinayaan booliisku kadib markii uu lacag dhan 650 milyan oo lacagta Kuuriya ah ay ku yeesheen macaamiishiisii. Saa awgeedna wuxuu been u sheegay hooyadii. wax yar kadib goobo dhalaalaysa oo quraarad ka samaysan ayaa laga soo dajiyay xaggii sare qolka taasi oo ay shaqaalihu u sheegeen in lacag laga soo buuxin doono markay dhameeyaan ciyaarta koobaad. qof kastaaba uu wareeray balse si kastaba ha ahaatee waxay isku raaceen inay ciyaarta ciyaaraan. waxaa loo dhiibay buug ay tahay inay saxeexaan. buuggaasi oo ay ku qoran yihiin 3 sharci oo kaliya. sharciga koobaad, ciyaaryahanada looma ogolaa inay joojiyaan ciyaarta markay ciyaartu bilaabanto. 2 ciyaaryahanka diida inuu ciyaaro waa la tirtiri doonaa. iyo 3 oo ah in ciyaarta la joojin doono haddii ay dadka badankoodu isku raacaan oo ay u codeeyaan in la joojiyo. qof kastaaba wuxuu saxiixay foomkii waxaana u diyaar garoobay ciyaartii koobaad. marka qolka laga sii baxayo waxaa la sii maraa meel weyn oo jaranjarooyin ka samaysan. tartamayaashii waxaa laga qaaday sawirro. intaa kadibna waxaa loo qaaday goobtii ciyaarta halkaasi oo ay taalla baambalo weyn oo laga naxayaa. Guyun wuxuu u tegay saaxiibkii waxaana weydiiyey sababtuu hooyadii beenta ugu sheegay. wadahadalkoodii waxaa ka soo dhex galay ogeysiis loo sheegay inay leenka cad xagga dambe ka istaagaan. kormeeraha ciyaartan oo meel ka mid ah xarunta ku jira ayuu qof soo wacay waxaanu fadhiistay kursi uu leeyahay oo shaashada hortiisa taala halkaas oo uu qof kasta ciyaartiisa ka daawanayo. markaan ku noqono goobtii ciyaarta, ciyaaryahanadii waxaa loo sheegay in ciyaarta koobaad ay tahay red light green light waxaanay haystaan 10 minute oo ay ciyaarta ku dhamaystiri karaan. isla marka ay boombalada gabadha ahi tiraahdo red light waa inay halkaa ay joogaan ku qalalaan oo ay istaagaan. waxaanay hore u dhaqaaqi karaan oo kaliya markay boombaladu jeedsato ee ay tiraa green light. haddii qof lagu qabto isagoo dhaqaaqayna boombalada ayaa dareemaysa dhaqaaqa qofkaana waa la tirtirayaa. ciyaartu way bilaabantay waxoogaa yarna caadi bay u socotay. waxaa bilaabantay inay boombaladii dareento dhaqaaq. nin baana meesha laga saaray isla markiibana waa la toogtay oo la dilay. kuwii kale way fahmi waayeen waxa meesha ka socda. waxay ciyaareen rownkii labaad balse waxay dhaqso u ogaadeen in dadka la tirtirayo dhab ahaan la dilayo oo aan ayarun meesha laga saareen. waxaa bilaabantay isku dhexyaac. dadkiina waxay bilaabeen inay meel ay ka baxaan raadsadaan oo ay kala cararaan. dhammaan wixii dhaqaaqayna waa la toogtay. rasadhan oo meyd ah ayaa hortuulantay albaabkii laga geliyay meesha. meeshiina waxay isku bedeshay meyd iyo dhiig meedhan. ciyaar aanay filanayn ayaa meeshii kaga soo baxday. ciyaartooy tira yar oo ciyaartooydii ka mid ah ayaa cabsi la qalalay oo aan iyagu dhaqaaqin. rownkii kaa xigay qof kastaaba wuxuu bilaabay inuu aad u taxadaro. Guyun weli wuxuu fadhiyaa dhulka balse wuxuu dhaqaaqayaa markuu Sang-woo dhaqaaq ku yidhaa
marba wuxuu ku dhawaaday inuu dhaco balse waxa badbaadiyay nin ka dambeeyay oo la yiraahdo Ali dad badan ayaa dhintay intay ciyaartu sii socotay balse dhamaadkii qaar kamid ah ayaa ugu dambeyntii ka gudbay ciyaartii kuwaasi oo ay kamid ahaayeen Gyu, Sang-woo, gabadhii jeebsiibada ahayd Sang-byok, ninkii da'da ahaa ee Ilnam, ninkii gaangistarka ahaa ee Deok-soo iyo ninkii badbaadiyay Gyun ee Ali. marka kamarada laga soo fogeeyo waxaan arkaynaa in meesha ay joogaan ay tahay jasiirad cidla dhismuhuna wuxuu ku yaalaa dhulka hoostiisa. shaqaalihii waxay meesha ka nadiifiyeen meydadkii waxaanay ku gubeen foorno. ciyaartooyadii badbaaday waxaa dib loogu soo celiyay qolkii waxaanay dhammaantood ka argagaxeen wixii ay indhahoodu qabteen ee ay goobjoogga ka ahaayeen. Gyun wuxuu uga mahad celiyay Ali sidii uu noloshiisa u badbaadiyey. intaa kadib waxaa meesha soo galay shaqaalihii goobta waxaanay ugu hambaliyeeyeen inay ka soo gudbeen ciyaartii koowaad. ciyaartooyda oo tiradoodu hore u ahayd 456 ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 201 taasoo macnaheedu tahay in la dilay 255 ciyaartooy. markii ay aragtay waxa meesha ka socda mid ka mid ah gabdhihii ayaa jilibkeedu ku fadhiisatay iyadoo shaqaalihii ka baryaysa inay fasaxaan. qaar kale ayaana ku soo biiray oo sidaas sameeyay. wax yar kadibna qof kastaaba wuxuu weydiistay inay meesha ka fasaxaan. si kastaba ha ahaatee shaqaalihii meeshu waxay xasuusiyeen sharcigii koowaad ee ciyaarta waxaanay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii ay diidaan inay ciyaaraan. balse Sang-woo ayaa xagga dambe si dhaqso ah uga soo jawaabay isagoo u sheegaya sharcigii saddexaad kaasi oo ahaa in haddii ay dadka badankoodu isku raacaan in ciyaarta la joojiyo. shaqaalihii way ku raaceen balse waxay tuseen tirada lacagta meesha lagu qaadanayo ka hor intii aanay odayn. goobadii dhalaalaysay ayaa waxaa laga soo buuxiyey lacag kaash ah oo badan oo isku xidhxidhan. shaqaalihii waxay u sheegeen in qofka guulaystaa uu gurigiisa la tegi doono lacag dhan 45.6 bilyan oo lacagta Kuuriya ah. balse haddii ay go'aansadaan inay joojiyaan qoysaska dadkii dhintay ayaa lacagtaa loo qaybin doonaa oo qoyskiiba la siin doonaa 100 milyan. intooda noolina waxba ma heli doonaan. lacagta tiradeedii waxay la jeclo gelisay qof kasta. kuwii markii hore ciyaarta diidanaana waxay bilaabeen inay u codeeyaan in ciyaarta la sii wado. codkii u dambeeyay ee lagu kala baxayayna waxaa codeeyay Ilnam kaasi oo u codeeyay in ciyaarta la dhameeyo. ugu dambeyntii waxaa loo ogolaaday inay guryahoodii tagaan iyagoon waxyeello soo gaadhin. shaqaalihii waxay u sheegeen in haddii mar kale ay badankoodu rabaan inay ciyaarta ciyaaraan in lala soo xidhiidhi doono. muuqaalka kaaxiga Gyun iyo gabadhii Sang-byok ayaa bas yar laga soo tuuray iyagoo gacmaha ka xidhan. sidoo kale sidan waxaa lagu sameeyey Ali iyo Sang-woo dhammaantoodna meelahoodii ayay kala tegeen. Sang-woo wuxuu Ali sii siiyey lacag nool ah oo uu baska ku sii raaco. Gyun wuxuu toos ugu tegay booliiskii waxaanu uga warramay afduubkii loo geystay balse booliiskii waxaa ku adkaatay inay aaminaan in raggii afduubtay ay codayn uu codeeyey awgeed dib ugu soo daayeen. sarkaal booliis ah oo la yiraahdo Chun Ho ayaa isaguna sidoo kale saldhigga jooga. kaarka uu Gyun gacanta ku hayo ayaa dareenkiisa qabsaday. intaa kadib Gyun wuxuu dib ugu noqday gurigiisii waxaanu ogaaday inay hooyadii guriga ka maqan tahay. waxaa dhacday in hooyadii macaan ama sonkorow aad u xun laga helay isla markaana dhakhtarka loo dhigay xanuun daran oo hayay awgeed. Gyun wuxuu ku cararay isbitaalkii waxaanu arkay cagtii hooyadii oo ay dhaawacyo qariyeen. dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in qalliin oo kali ah uu badbaadin karo nolosheeda balse ma awoodo lacagta qalliinka. dhinaca kale waxaynu ku arkaynaa sarkaalkii booliiska ahaa ee Chun Ho oo hooyadii kala hadlaya arrinta walaalkii. Chun Ho walaalkii waxaa la la'aa dhowr cisho taasi oo warwar ku abuurtay. qolkii walaalkii wuxuu ka helay kaar la mid ah kaarkii uu Gyun markii tusayay booliiska. wuxuu go'aansaday inuu u tago Gyun aanu ka wareysto kaarkan. dhinaca kale gabadhii jeebsiibada ahayd ee Sang-byok ayaa waxay xarun agooneed kula kulantay walaalkeed. gabadhani waaba baxsad oo waxay ka soo baxsatay Kuuriyada Waqooyi halkaas oo wali waalidkeeduna ku xaniban yahay. waxay rabtay inay lacag badan hesho si ay waalidkeeda u soo dhaafiso meesha walaalkeedna ay uga saarto xaruntan agoomaha. dhinaca kale Ali wuxuu tagay meeshii uu ka shaqaynayay si uu ula kulmo maamulihiisii. wuxuu Kuuriya u yimiday Baakistaan uga yimiday si uu lacag u helo balse hadda ilaa 6 bilood mushaharkiisii lama siin. waxaa guriga u jooga oo isaga ku tiirsan xaaskiisii iyo inan yar oo u dhalay. Ali maamulihiisan waxaa hortaalla xidhmo lacag ah balse haddana wuxuu diiday inuu lacag siiyo. Ali oo xanaaqay ayaa wuxuu ninkii ku riixay meel mishiin ah oo burburisay gacmihiisii. wuxuu qaatay lacagtii waanu baxsaday. markii uu gurigii tagay wuxuu lacagtii u dhibay xaaskiisii waxaanu u sheegay inay Baakistaan dhaqso dib ugu noqoto cunugana ay ka haysato. waxaanu u ballan qaaday inuu dib ugu soo noqon doono isagoo markii ugu dambeysay xaaskiisa habsii siiyey ka hor intaanay tegin.
dhinaca kale Sang Woo wuxuu wacay hooyadii waxaanu isagoo been sheegaya u sheegay inuu weli Mareykanka joogo. hooyadii waxay si farxad leh ugu sheegtay inaanu wax hadiyad ah isku soo dhibin oo aanu u keenin, waxaanay dhigtay taleefankii. isla markii ay taleefanka dhigtay, maamadii da'da ahayd waxa u yimiday ciidamo booliis ah iyagoo ka waraystay Sang Woo. waxay u sheegeen inuu baaritaan ku socdo oo la raadinayo isagoo xaday lacag ay macaamiishiisu u dhiibteen, waxaanay ka codsadeen inay soo wargeliso marka uu u yimaado. islaantii way naxday waxaanay ku hor ceebowday macaamiisheedii oo ay wiilkeeda u faaninaysay. dhinaca kale Sang Woo wuxuu mar kale kaadh ka helay xaruntii. Gyuna wuxuu tamar iyo taagba u leeyahay xanuunka hooyadii. wuxuu u tegay xaaskiisii hore si uu caawimo weydiisto, balse way diiday inuu caawiyo. iyagoo wada hadlaya ayaa waxa u soo galay ninkeedii cusbaa iyo carruurtii. Gyun wuxuu uga baxay bannaanka, markuu baxayna waxa u yeedhay ninkii qabay naagtiisii hore. wuxuu u dhiibay xidhmo lacag ah, waxaanu ka codsaday Gyun inaanu mar dambe qoyskiisa u iman. Gyun oo xanaaqsan baa ninkii garaacay isagoo u sheegay inaanu inantiisa ka qaadan karin. intaa kadib inantiisii ayaa dibadda u soo baxday, waxaanay aragtay aabbaheed oo garaacaya adeerkeed. waxay aabbaheed u eegtay si niyad jab leh. kadib wuxuu gurigiisii ku soo noqday isagoo dareemaya ciirsi la'aan iyo in gebi ahaanba laga adkaaday. sarkaalkii booliiska ahaa ee Junho ayaa ku sii sugayay bannaanka gurigiisa. wuxuu Gyun wax ka weydiiyey kaadhkii, balse Gyun wuu dafiray isagoo u sheegay inuu cabsanaa markii uu booliiska wargelinayay. wuxuu mar kale qaatay go'aan ah inuu ku noqdo meeshii, mana rabo inay booliisku wax dhibaato ah ku sameeyaan. Junho wuxuu isku dayay inuu hadal ka soo saaro, balse Gyun wuu isdhaafiyey. isagoo gudaha guriga sii socda wuxuu arkay kaadhkii oo sudhan albaabka. nambarkii buu wacay, dib ayaanu u noqday si mar kale loo qaado. sidaasi la mid ah Sang Woo, Ilnam, Sabyok iyo Aliba waxay go'aansadeen inay ku noqdaan ciyaarta. xalqaduna waxay dhammaanaysaa markay fulaan baska yaraa ee gaastiina mar kale miyir doorsoomiso. xalqadii hore dhammaan jilayaashii ugu waaweynaa ee filimku waxay fuuleen baska yaraa si ay ugu noqdaan xaruntii, nafahoodana ay ugu khamaaraan lacag darteed. sarkaalkii askariga ahaa ee Junho wuxuu dabagalay baskii oo Gyun la socday isagoo weli raadinaya walaalkii. baskii wuxuu istaagay deked, halkaas oo basas isaga la mid ahna lagu rarayay markab dekeda yaalay. Junho wuxuu hoosta ka galay oo uu soo qabsaday baskii oo Gyun la socday, sidoo kalena wuxuu la raacay markabkii. waqti kadib shaqaalihii dharka caskashana waxay bilaabeen inay kormeeraan ciyaartooydii iyagoo hubinaya oo baaraya qalab lagula socday ciyaartooyda oo dhagahooda la geliyay. Junho wuxuu dhex galay bas, waxaanu garaacay shaqaale isku dayayay inuu isaga baadho. wuxuu ka bedeshay ninkii dharkiisii iyo maaskaradiisii. kadib markay kuwii kala baxeen, wuxuu ID-giisii geliyey ninkii jeebadiisa, waxaanu ku tuuray badda. mid ka mid ah shaqaalihii ayaa arkay Junho, waxaanu weydiiyey waxa uu qabanayo. ninkani waa ninkii ka sarreeyay Junho, taasi oo uu Junho ku xaqiiqsaday in qaababka maaskaradooda ku yaala ay caddaynayaan kala sarreyntooda iyo jawooyinkooda. wuxuu xaaladii kaga baxay isagoo u sheegay inuu badda ku xanuunsado. markabkii wuxuu istaagay jasiiradii, dhammaan tartamayaashiina waxaa loo qaaday hoolkii. iyagoo weli miyirla ayaa dharkii laga bedelay, alaabahoodiina meel baa loo dhigay. Sabyok oo iyada miyirkeedu yara joogo ayaa maaraysay inay la dhuumato midida jeebka. ciyaaryahanadii waxay mar kale kaceen iyagoo hoolkii ku jira. Gyun wuxuu mar kale la midoobay ninkii da'da ahaa ee Ilnam. Sang Woo iyo Ali ayaa sidoo kale labadaa ku biiray. waxay go'aansadeen inay koox samaystaan si ay ugu fududaato inay guulaystaan wareegga dambe. si sidaa la mid ah gaangistarkii Deoksu isna sidoo kale wuxuu samaysanayaa koox uu leeyahay. waxaanu ka codsaday Sabyok inay kooxdiisa ku soo biirto, balse way yeestay ninkii, waxaanay ka diiday inay kooxdiisa ku soo biirto. wada sheekaysigoodii waxaa soo dhex gashay Miyo, waa gabadhii ka baraysay shaqaaluhu inay fasaxaan markii hore ee ay halkan joogeen. waxay isku dayday inay sasabato Deoksu si ay ugu soo biirto tiimkiisa, balse wuu caayay waanu ka dhaqaajiyey. intaa kadib shaqaalihii waxaa loo sheegay inay ku noqdaan qolalkoodii, sababtoo ah shaqadoodii ay maalintaa qabanayeen way u dhammaatay. Junho oo maareeyay inaan weli la qaban ayaa tegay qolkii loogu talagalay, waxaanu arkay inuu qolku leeyahay kamarad si gaar ah u ilaalinaysa. habeennimadii Miyo waxay samaysatay buuq ay ku rabtay inay dibadda ugu baxdo oo ay ku soo xajooto, waxaanay albaabkii ku garaacday ilaaladii si ay ugu ogolaadaan inay baxdo. waxay u ogolaadeen inay baxdo. sidoo kale Sabyok ayaa fursadda ka faa'iidaysatay oo iyaduna baxday. waxaa dhacday in Miyo ay dharkeeda hoose ku qarsanaysay baakad uu ka buuxa sigaar, waxaanay bilowday inay sigaar ka cabto. Sabyok ayaa ugu soo gashay suuligii ay ku jirtay, waxaanay midideedii ay haysatay ku furtay daloolkii saqafka.
gudahaanay u gashay saqafkii si ay u soo baadho waxna uga soo ogaato xarunta. waxaanay dul tagtay daloolkii jikada dhexdeeda waxaa lagu dhalaalinayay xaddi aad u badan oo sonkor ah. Saibiyok degdeg ayay u noqotay si aanay ilaaladu u qaban. Minyo ayaa weydiisay waxay meesha ku soo aragtay, balse waxay Saibiyok isku dhaafisay inaanay xog muhiima ahayn. maalintaa xigtay ciyaartooyadii waa la kiciyey, waxaana la siiyey rooti iyo caano ay ku quraacdaan. Giyuun iyo kooxdiisii waxay jeclaysanayeen quraacdooda, waanay ku dul sheekaysanayeen. waxay bilaabayaan inay aad iskugu soo xidhmaan. siiba Ilnam iyo Giyuun ayaa saaxiibtinimo fiican si yeelanaya, waxaanu midba midka kale ka waraysanaya wakhtiyadii ay soo mareen. Ali wuu u naxariis badan yahay dhammaantoodba. xagga Sangu uu ugu muuqdo midaan wax dareen ahba lahayn. iyagoo wada sheekaysanaya ayaa waxaa ku soo dhacay ogeysiis u sheegaya in la gaadhay wakhtigii ciyaarta xigta la ciyaari lahaa. iyagoo dibadda u sii socda ayuu Sangu weydiiyey Saibiyok wixii ay soo aragtay shalay. waxaa dhacday inuu habeennimadii maqlayay Minyo iyo iyada oo wada hadlaya. Saibiyok waxay u sheegtay in shaqaaluhu ay sonkor dhalaalinayeen. markay bannaankii u baxeen, Sangu wuxuu arkay shaxanno badan oo lagu sawiray gidaarka. waxaanu xaqiiqsaday inay ciyaarayaan ciyaar hore oo da'weyn oo Kuuriya lagu ciyaari jiray, taasi oo ay jebinayaan cunto fudud oo qasaacad yar ku jirta oo sonkor ka samaysan oo qaabab kala duwan loo sameeyey iyagoon shaxanka jebinayn. hase ahaatee uma sheegin saaxiibadii, waxaanu isagu doortay shaxankii ugu fududaa. Giyuun wuxuu doortay shaxanka dalaayadda, kaasi oo ah shaxanka ugu adag, balse haddana Sangu marna uga mudigin. waxaa loo dhiibay qasaacaddii. Giyuunna wuxuu xaqiiqsaday inuu baxar galay. ma jirto si uu shaxanka dalaayadda si saxa ugu jebin kara hareeraha, isla markaana uu shaxanka dalaayadda keligeed uga soo saari karaa. Sangu iyo Saibiyok waxay doorteen saddexagal. Calina wuxuu doortay goobo, halka Ilnam, Diaksu iyo Minyona ay heleen xidig. ciyaartii way bilaabantay. Sangu iyo Saibiyakna si fudud ayay u jebiyeen shaxanadoodii, sidoo kale Cali wuu jebiyey. dhinaca kale, Minyo waxay ku hoos dhuumatay meel lagu simbirixdo, waxaanay isticmaashay leetar ama qarxisada sigaarka si ay sonkorta si fudud ugu dhalaaliso. Giyuun iyo Ilnam ayay ugu darnayd oo aad ula dhibaatooday inay shaxanka soo saaraan. shaqaalihii waxay dhaqso bilaabeen inay dilaan dadkii shaxanku ka jabay ee aan shaxanka si saxa u soo saarin. Sangu, Saibiyak iyo Cali wakhti yar gudihii ayay ku dhameeyeen waxoodii. qofna ma ogaan inay Minyo wax khiyaamayso, sidoo kalena way guulaysatay. kadib markay dhammaysatay, waxay qarxisadii ama leetarkii u sii tuurtay Diaksu si ay u caawiso. inkastuu hore u caayay, haddana waxay si aad ah u rabtaa inay mustaqbalka kooxdiisa ku biirto. Giyuun wuxuu xaqiiqsaday in haddii uu leefleefo sonkortan ay khafiifi doonto oo ay caato noqon doonto, taasina ay u fududayn doonto inuu shaxanka si nabad ah uga soo dhex saaro. dadkii ku hareeraysnaa oo uu ku jiro Ilnam waxay raaceen farsamadiisii. daqiiqadihii ugu dambeeyey wuxuu maareeyey inuu shaxankii dalaayadda ka soo dhex saaro, halkaana wuxuu kaga gudbay wareeggii. Ilnamna sidaasi oo kale ayuu sameeyey, waana ku guulaystay. si kastaba ha ahaatee, kuwii guuldaraystay waxaa loo laayay si arxandaro ah. kormeerihii ciyaartu wuxuu qof kasta ka dhex daawanayaa shaashadda. Junho sidoo kale wuxuu dhex joogaa goobta, waxaanu ka argagaxay markuu arkay xaqiiqada dhabta ah ee ciyaarta. ninkii ka sarreeyey oo maaskaradiisa afargeys ku sawiran yahay ayaa u sheegay inuu waajibaadkiisa qabto oo uu qaado meydadka dhintay, mar dhowna uu la kulmo. mid ka mid ah ciyaaryahanadii guuldaraystay ayaa diiday inuu dhinto, waxaanu baaskooladii ka qaaday kuna qabtay mid ka mid ah shaqaalihii. wuxuu ku qasbay ninkii inuu maaskaradiisa iska qaado. waxaanu arkay in qofkani yahay wiil yar. wuu naxay, waxaanu dareemay dembi, isagaana istoogtay, waanu dhintay. kormeerihii ayaa u yimiday shaqaalihii wejigiisa la arkay, waanu toogtay isagoo u sheegay inay tahay inaan qofna wejigiisa la arag. Junho wuxuu nadiifiyey meydadkii, waxaanu ka dhaxlay ninkii la dilay maaskaradiisii. ninkan oo ahaaba ninkii ka sarreeyey ee markii uu yeedhayay, wuxuu maaskaradiisii goobada ahayd ku beddeshay maaskaradii ninkii dhintay si uu iskaga dhigo iskuna ekaysiiyo xubin ka mid ah shaqaalaha sare ee meesha. kadib markay ciyaartu dhammaatay, ciyaaryahanadii waxaa la keenay qolkoodii. si kastaba ha ahaatee, shaqaalihii waxay ka haysteen ciyaaryahankii gashanaa lambarka 111. waxaa la ogaaday in qaar ka mid ah shaqaaluhu ay si sir ah ugala baxaan meydadka xubnaha jirkooda si ay u iibiyaan. ciyaaryahankan 111 ee ay ka haysteen waa dhakhtar qalliin oo iyaga caawinaya, waxaanay taa beddelkeeda isaga u sii sheegayaan ciyaarta dambe ee la ciyaari doono si uu dhammaantood uga gudbo, iyaguna ay hawshooda sirta ah u wataan. dhinaca kale, Diaksu wuxuu Minyo ku daray kooxdiisii maadaama ay hore u caawisay. 187 ciyaaryahan ee ka qayb qaatay ciyaartii, 79 ka mid ah ayaa la dilay. subaxnimadii xigtay
waxaa la siiyey quraac, beed iyo cabitaan qabow ah. Diaksu ayaa ka cawday inaanin quraacdu ku filnayn. isaga iyo kooxdiisii mar labaad ayay safkii galeen si ay cunto badan u helaan, iyadoo ay tan ugu wacan tahay dhowr ka mid ah ciyaartooyadii oo xagga dambe ku jiray ayaan wax cunto helin. gabadh ayaa sheegtay inay aragtay in kooxdaasi ay 2 jeer cuntada qaateen. tani waxay cadhigelisay nin aan cuntadiisii helin. wuxuu ku qeeliyey Diaksu si uu qaybtiisa u siiyo, waxaanu isku dayay inuu ka xafo cabitaankii qabooba. Diaksu oo xanaaqay ayaa isaguna feeray, labadiina way dagaalameen. Diaksu wuxuu ninku u garaacay si istaba joog ah, waxaana dhacday inuu ninkii far dhaqaajin waayo. markii la wada aamusay, Sang Woo ayaa ninkii u yimiday oo hubiyey inuu nool yahay, waxaanu ogaaday inuu dhintay. Giyu wuxuu shaqaalihii ka codsaday inay arrinta wax ka qabtaan, xataa wuxuu eegay oo uu la hadlay kamaradii ilaalinaysay si uu uga codsado kormeeraha meesha. si kastaba ha ahaatee, shaqaalihii may faragelin wixii meesha ka socday, waxaanay ku dhawaaqeen in ciyaaryahankii 271 meesha laga saaray. qof kasta wuxuu xaqiiqsaday inay istilaan ay tahay wax ka caadi ah ciyaartan. tani waxay fikrad siisay kooxdii Diaksu. qof kastay dili karaan, lacagtana iyaga ku guulaysan karaa. qaar ka mid ah shaqaalihii ayaa soo galay iyagoo wata naxash, waxaanay aayar qaadeen meydkii. dhinaca kale, dhakhtarkii wuxuu weli meydadkii ka saarayaa xubnahoodii. kadib markii uu dhameeyey, shaqaalihii waxay u sheegeen inuu ku biiro kooxda ugu xoogan ee meesha ku jirta. waxay si sir ah ugu sheegeen in maamulku uu quraacdii si ulakac ah ugu soo yareeyey, sababtoo ah waxay ka rabeen ciyaaryahanada inay wax aad u xun sameeyaan, lacag awgeedna ay wax kasta u samayn karaan, xataa uu midba midka kale u dili karo. ugu dambayntii waxay u sheegeen ciyaarta dambe waxay tahay dhaqaaji baanay ku yidhaahdeen. markaynu hoolkii ku noqonno, qof kasta naftiisu u baqanaya. Giyun iyo kooxdiisii waxay go'aansadeen inay habeenkoo dhan soo jeedaan si ay u badbaadaan. markuu arkay Saibiyok oo kaligeed ah, wuxuu Giyun ku casuumay inay kooxdooda ku soo biirto, balse waxay u sheegtay inaanay aaminin. markuu dhakhtarkii ku soo noqday hoolkii, wuxuu eegay kooxdii ugu xoogan ee meesha ku jirta. isagoo qaadanaya taladii shaqaalaha, wuxuu u tagay tiimkii Diaksu, waxaanu ka codsaday inuu ku soo biiro. ugu horreyntii, Diaksu wuu ku jeesjeesay oo wuu ka maadsaday, balse wuu aqbalay markii uu si sir ah ugu sheegay ciyaarta la ciyaari doono maalinta soo socota. shaqaalihii waxaa la geliyey heegan sare, ciyaar gaar ah oo soo socota awgeed. ciyaartaas oo loola jeedo dagaal ka dhici doona meesha markay nalalku damaan. isla markii leedhku damay, tiimkii Diaksu way kaceen, waxaanay bilaabeen inay dadkii weeraraan. Diaksu ayaa geystay dilkii ugu horreeyey, qayladii ayaana qof kasta kicisay. kormeeruhu wuxuu qof kasta ka daawanayaa kamaradahan meesha ilaalinaya oo habeenkii xataa wax laga arki karo. wuxuu amray mid ka mid ah shaqaalihii inuu daaraadamiyo leydhka qolka si caadi loogu arko dilka meesha ka socda. waxaa dhaqso u bilaabantay in sariirihii sare ay soo daataan, meeshiina waxay isku beddeshay dhiig miidhan. Diaksu wuxuu weeraray Saibiyok oo uu xarash xun u hayay, waxaana ku dhawaatay inay dhimato, balse waxa badbaadiyey markii uu nin kale soo weeraray Diaksu. Giyun kooxdiisii waxay ku kulmeen fuudada dhexdeedii, waana isqabsadeen, balse ninkii da'da ahaa ee Ilnam ayaa meeshaba laga waayay. Saibiyok nafteedii ayay u baqatay, waxaanay ku soo biirtay kooxdii Giyun, balse haddana kooxdii waxaa soo weeraray Diaksu kooxdiisii. iyagoo dagaalamaya ayaa waxay maqleen Ilnam oo sariirta ugu sarreysa dusheeda ka soo qaylanaya, isagoo weydiisanaya inuu qof kastaaba dagaalka joojiyo. kormeerihii ayaa markaa arkay, waxaanu dib u shiday leydhkii. shaqaalihii waxay dhex galeen meeshii oo uu dhiig iyo meyd ka buuxsamay. waxay baadheen meydadkii dhintay, waxaana soo baxay dhawaaq lagu sheegayo in 27 ka mid ah oo dhintay meesha laga saaray. meydadkii waa la qaaday, waxaana lagu gubay foorno. markii ay wax kasta kala degeen, Giyun iyo kooxdiisii baa isku soo ururay, midba midka kalean u bartay, maadaama ay ilaa hadda nambaradooda iskugu yeedhayeen oo aanay magacyadooda garanayn. Ilnam wuxuu u muuqdaa inay dhacdadii khalkhalisay, waxaanu iloobay magaciisii. Giyun ayaa niyadda ugu dejiyey inuu fiicnaan doono marka uu nasto. dhinaca kale, dhakhtarkii wuxuu marooyin ku xidhayaa dhaawacyadii Diaksu. kooxdani waxay ku faraxsan tahay inay dileen dad badan, waxaanay go'aansadeen inay qaar kaloo badanna sii laayaan ilaa ay iyagoo keli ahi meesha ku hadhayaan si ay iyagu lacagta ugu guulaystaan. aroornimadii xigtay, qof kasta waa la kiciyey, waxaana loo sheegay in ciyaartii saddexaad ay wax yar kadib bilaabmi doonto. waxoogaa kadib waxaa loo qaaday qol cad oo madhan, halkaasi oo loo sheegay inay isqaybiyaan oo ay isku raacaan 10-10, guruub kastaana uu 10 noqdo. tiimka Giyun wuxuu hore u haystay 5 xubnood, sidaa darteed waxay go'aansadeen inuu qof kastaaba soo helo hal qof oo kale. Diaksu oo hore u og waxay ciyaartu tahay ayaa raggiisii u sheegay inay soo ururiyaan
rag xoog waaweyn oo si fiican u dhisan. Minyu waxay ku hadashay weyday markii uu u sheegay inaanay tiimka ka sii mid noqon karin. Waxay ka bariday inuu u ogolaado inay ka mid ahaato, balse wuu kala tuuray oo dhulku ku dhuftay. dhinaca kale Sae-byeok waxay u tagtay gabadh kaligeed meel koorna ah fadhiday, waxaanay ku qancisay inay tiimkooda ku soo biirto. kuwii kale nin kastaaba nin buu keenay marka laga reebo Ilnam oo aan isagu qofna keenin. sidaa darteed kooxdu hadda waxay ka kooban tahay 9 xubnood oo kaliya. Minyo oo gruubkii Diaksu laga soo eriyay ayaa iyaga ku soo biirtay daqiiqadii ugu dambeeyay. intaa kadib waxaa la keenay hool aad u weyn kaasi oo xaggiisa hore buundo ama bridge dheer ku leh. ciyaartan hadda la ciyaari doona waa ciyaar xadhig la kala jiidan doono, waxaana loo yaqaanaa The Tug of War. ciyaaryahanada waxaa laga rabaa inay dhinacooda xadhigga u jiitaan. kuwa guul daraystaana waxay ka dhici doonaan bridge-ka dheer waanay dhiman doonaan. kooxda Giyun waxaa ku jira 3 gabdhood iyo nin da ah, sidaa darteed jaaniska ay ku guulaysanayaan aad buu u hooseeyaa. balse Diaksu wuxuu horeba u soo urursaday raggii ugu xoogga weynaa meesha. dadkii kalena iyagoo warwarsan ayay daawanayeen markay ciyaarta koowaad bilaabantay. kooxdii Diaksu hore ayay markiiba u guulaysteen, kooxdii kalena waxay ka soo laalaadsameen xadhiggii, waana loo jaray xadhiggii iyagoo ugu dambayntii ku dhacay dhulkii ku hooseeyey. ugu dambayntii shaqaalihii ayaa meesha ka qaaday midkoodii. waxaa la soo gaadhay oo ku xiga Giyun kooxdiisii. waxay kaceen iyagoo warwarsan, iyagoo og in fursadda ay ku soo baxayaan ay hooseyso. intaa waxa dheer kuwa ka soo horjeeda waa wada rag, kuwaasoo weliba u muuqda inay xoogan yihiin. si kastaba ha ahaatee Ilnam ayaa u sheegay inuu ciyaartan xadhig kala jiidadka uu ahaan jiray ka ugu fiican markii uu yaraa. wuxuu u soo koobay oo uu u sheegay farsamooyin yaryar oo waxtar badan leh oo ay ciyaarta ku guulaysan karaan. marka koobaad wuxuu u sheegay in qofka ugu horeeya uu noqdo qof aad u xoogan oo kuwa kalena kula xidhiidha isagoo madaxiisa dhinacyada u qalluucinaya. qofka ugu dambeeyana uu noqdo qofka ugu xoogga badan leh meesha. marka labaad wuxuu u sheegay in qof kastaaba uu xadhigga dhinaca ka ku xiga maahee dhinaca kale ka maro si ay soo jiidistu u xooganaato. marka saddexaad dhammaan cagahoodu waa inay xagga hore soo eegayaan, xadhiggana waa inay sidoo kale ku qabtaan kilaankilooyinkooda. waxa ugu dambeeya uguna muhiimsanna wuxuu yahay in kooxdu ay dhulka xoog iskugu xejiyaan 10 sekin ee ugu horeeya markay ciyaartu bilaabanto. sidaa markaad samayso kooxda kaa soo horjeeda markuu xoogu ka dhammaado si ay ka yaabaan ayaad u soo jiidanaysaa. iyagoo farsamadan isticmaalaya kooxdu waxay aad ugu dhowaatay inay guulaysato, balse mucaaridkii ayaa xadhiggii si xoogan u jiitay daqiiqadihii ugu dambeeyey. iyagiina sidii loo riixayay ayaa waxaa la keenay cidhifkii laga dhacayay, balse sidaa darteed Sanguo ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey la yimiday fikir. wuxuu qof kasta ka codsaday inay xadhig ay haystaan waxoogaa dibciyaan oo ay u sii yara daayaan si ay kuwa kale uga soo horjeedaa dib uga daataan. markay sidaas sameeyeen Giyun oo isagu ugu horreeyey ayaa wax yar ku sigtay inuu ka dhaco bridge-ka, balse qorshihii wuu shaqeeyey oo kuwii ka soo horjeeday dib bay u daateen. kooxdiina waxay fursaddan uga faa'iidaysteen inay xadhigga u jiitaan sidii ugu xooganayd ee ay u jiidan karayeen. ugu dambayntiina way guulaysteen ciyaarta. waxay dhulka la jiifsadeen daal awgii iyo iyagoo dareemaya farxad aad u weyn. intii ay ku sii socdeen qolkoodii gabadhii ay Sae-byeok ku soo biirisay kooxda oo la yidhaa Jiyeon ayaa ka maadsatay nin kooxda ka mid ah oo baadari ah. waxay ku noqdeen qolkii waxaanay arkeen tiimkii Diaksu oo wada sheekaysanaya. Minyu waxay ku dheegagtay ninkii iyadoo si xeeladaysan ugu sheegaysa inaanay hadda laga bilaabo u baahnayn. intaa kadib kooxdii way wada fadhiisteen iyagoo wada hadlaya. Minyu waxay isku dayday inay qof kasta soo jiidato si ay u jeclaadaan. sidoo kale waxay ku yastay Ali inuu yahay ajnabi, waxaanay weydiisay inuu tuso baasaboorkiisii. iyagoo wada hadlaya ayaa lagu dhawaaqay in leydhka dhowr daqiiqo la damin doono. waxay ogsoon yihiin in dadku laga yaabo inay istilaan habeennimada, sidaa darteed kooxdii waxay qorsheeyeen inay samaystaan meel ay iskaga xanibaan cadowga. waxaanay go'aansadeen inay laba marba gaadhka u galaan habeennimada oo ay soo kacaan, iyagoo ku guda jira inay samaystaan meesha aan looga soo gudbi karayn oo isticmaalaya sariirihii laga dhintay. Diaksu ayaa u yimiday Giyun waanu ka maadsaday isagoo u sheegaya inaanay sariirahani ka celin karin inay dilaan. dhinaca kale Giyun ayaa isaga laftarkiisu uga digay xubnaha tiimkiisa ka midka ah. wuxuu u sheegay in maadaama uu isagu amrayay laga yaabo inuu isagu yahay qofka ugu horeeya ee ay beegsanayaan. hadalladiisii waxay galeen madaxii Diaksu waanu aaminay. wuxuu u sheegay kooxdiisii inaanay caawa waxba dili doonin. Ilnam ayaa kooxda u sheegay inuu isagu noqonayo
qofka ugu horeeya ee gaadhka qabanaya isagoo u sheegay inaanay dadka waaweyni hurdo badan usii baahnayn. balse ninkii odayga ahaa waxaa aamus ku yidhi ninkii cusbaa ee kooxda ku soo biiray, isagoo u sheegay inaanu nin sidan u weyni aanu ilaalin karin oo aanay naftooda ku aamini karin. waxaa si dhaqso ah u tegay leydhkii. Sang-woo iyo Calina way soo jeedeen si ay kuwa kale u ilaaliyaan. Cali wuxuu uga mahad celiyey Sang-woo inuu maanta noloshiisa badbaadiyey, waxaanu siiyey sabuul ama gelay oo isagoo ugu talagalay. Sang-woo wuu kala jebiyey, waxaanu barhkiisii siiyey Cali. labadooduna halkaasay waxoogaa ku wada sheekaysteen iyagoo xasiidii ama sabuulkii cunaya. wuxuu Cali ka codsaday inuu ugu yeedho Hyang, taasi oo Kuuriyaanka macnaheedu yahay walaalka weyn. waxay wadaageen sheekooyin ku saabsan sida ay ciyaarta ku yimaadeen iyo waxa ku sababay. waxoogaa kadib Sang-woo wuxuu kiciyey Giyun si uu isna markiisa gaadhka u galo. Diakso sidoo kale wuu seexan kari waayey oo hurda way ku soo dhici weyday, isagoo ka cabsanaya in laftarkiisa la dilo. dhanka kale sarkaalkii askariga ahaa ee Junho waxaa loo qaaday qol ay shaqaalaha qaarkood si sir ah ugala baxayeen ciyaaryahanada dhintay xubnahooga. sidoo kale wuxuu ogaaday in ninkii shaqaalaha ahaa ee uu markabka ku dhex dilay oo sidoo kale hawshan sirta ah kala shaqaynayay kooxdan. dhakhtarkiina sidoo kale meeshuu joogaa isagoo qalliinkii wada. waxay isla murmeen shaqaalihii iyagoo u sheegay inuu gaabinayo. markaan qolkii ku noqonno, Giyun waxaa ku soo biiray Ilnam si uu gaadhka ula hayo. Giyun wuxuu uga warramay sidii aan wax lacag ah loo siin shaqo u qalintay 10 sano oo uu shaqaynayay, maxaa yeelay shirkad gawaari oo uu ka shaqaynayay ayaa masruuftay ama kacday. Ilnam ayaa aad uga damqaday hadalkiisii, waxaanu si kedis ah u bilaabay inuu ooyo. Giyun wuxuu isku dayay inuu dejiyo, waxaanu xaqiiqsaday in ninkan odayga ahi wuxuu madaysan yahay. wuxuu isku dayay inuu jeefiyo, balse wuxuu waayey biyo uu hoos ugaga dhigo xumadda. Saibyak ayaa biyo ugu deeqday. labadoodiina waxay seexiyeen Ilnam, markana waa markoodii ay ilaalada gelayeen. dhanka kale dhakhtarkii wuxuu dhameeyey ka saaristii meydadka xubnahooda, waxaanu u dhiibay Junho iyo xubin kale oo shaqaalaha ka mid ah, labadaas oo loogu talagalay inay biyaha hoostooda quusaan isla markaana ay xubnaha u geeyaan kuwa ka iibsanaya oo badda dhex jooga. kadib markii ay baxeen, dhakhtarkii wuxuu kuwii kala weydiiyey waxay tahay ciyaarta beri la ciyaaraya, balse waxaa dhacday in iyaga laftarkoodu aanay garanayn waxay ciyaartu noqon doonto. dhakhtarkii aad bay xaaladiisu u kacday oo wuu xanaaqay, waxaanu u sheegay in berri la dili doono haddii aanay hadda u sheegin. wuxuu middo ku qabtay mid ka mid ah shaqaalihii, waxaanu kii kale u sheegay inuu dhaqso u soo ogaado waxay ciyaartu noqon doonto. waxay wada galeen dagaal, taasi oo dhakhtarkii ku sababtay inuu cararo dhankii hoolka, balse wuxuu ka lumay waddadii la marayey, mana garanayo si uu u noqdo. mid ka mid ah shaqaalihii ayaa soo dabagalay isagoo u sii ordaya meeshii lagu ciyaarayey ciyaartii shaxnada. wuxuu ka codsaday dhakhtarkii inuu istajiyo, sababtoo ah haddii la qabto dhammaantood waa la dili doonaa. dhakhtarkii wuxuu u sheegay inuu wejigiisa tuso si uu u aamino. labadii oo wada hadlaya ayuu si kadis ah kormeerihii xaruntu u toogtay ninkii shaqaalaha ahaa. intaa kadib wuxuu u sheegay inaanu danaynayn waxay shaqaaluhu ku sameeyaan jidhka meydadka, balse aan loo ogolayn inay ciyaaryahanada u sheegaan ciyaarta la ciyaari doono. wuxuu u sheegay inay taasi burburinayso nuxurkii xarunta oo ah sinaan. intaa kadib wuxuu dilay ninkii xagga shaqaalihii kale ay dhakhtarkii toogteen ilaa uu ka dhimanayay. dhinaca kale Junho iyo ninkii shaqaalaha ahaa waxay hoos ugu dhaadhaceen oo ay ka baxeen meel loogu talagalay bixitaanka emergency-ga ah oo uu sheegay in loogu talagalay dadka VIP-da ah. Junho wuxuu si degan u weydiiyey cidda ay VIP-du yihiin, balse ninkii wuxuu u sheegay inaanu qofna garanayn cidda ay yihiin. ninkii wuxuu ka shakiyey Junho iyo su'aalahan badan ee uu weydiinayo, waxaanu u sheegay inuu maaskarada iska furo. ninkii wuxuu ogaaday in Junho uu yahay qof ka duwan qofkii, balse ka hor intaanu falcelin samayn, Junho ayaa ku qabtay baaskooladiisii. wuxuu su'aale ka weydiiyey walaalkii, balse ninkani waxba kama garanayo walaalkii, laakiin wuxuu u sheegay faylal ay ku qoran yihiin macluumaadka ciyaartooydu oo yaalla qolka ninka kormeeraha ah, halkaas oo uu ka heli karo macluumaadka walaalkii. jaranjaro sir ah oo geynaysa ninka kormeeraha ah qolkiisa ayaa meesha ku ag taalla. Junho wuxuu toogtay oo uu dilay ninkii, waxaanu galay qolkii ninka kormeeraha ah. kadib markuu ka baxay, kormeerihii iyo shaqaalihii la socday ayaa yimiday meeshii, waxaanay arkeen ninkii uu Junho dilay. kormeerihii wuxuu ninka jidhkiisa ka soo saaray xabaddii, waxaanu xaqiiqsaday inuu xabaddan nin booliis ahi leeyahay.
shaqaalihii waxaa la amray inay sida ugu dhaqsaha badan ninkaa u soo helaan. saacad qayladhaan ah oo digniin diraysa ayaa laga dhawaajiyey, taasi oo kicisay ciyaartooydii. waxay shaqaalihii u sheegeen inay meesha dhexdeeda dhaqso saf ugu galaan. ilnam ayaa diiday inuu kaco, waxaana dhacday inuu habeennimadii isku kaajiyey, taasi oo uu islahaa yaan lagugu ogaan. dhinaca kale Junho wuxuu galay qolkii kormeeraha, halkaasi oo uu ka helay faylashii qof kasta oo ciyaartani intay jirtay ka qayb qaatay. wuxuu ogaaday in ciyaartani ay socotay oo la ciyaarayay sannado badan. ciyaaryahanadii qolka dhexdiisa ayaa safaf la geliyey. Giyun wuxuu isku dayay inuu caawiyo ilnam, isagoo jaakadiisa dhexda uga xidhay si uu uga qariyo kaadida oo aanu ceeboobin. intaa kadib ciyaartooydii waxaa loo qaaday dhankii loo sii marayay hoolalka, halkaasi oo uu qof kastaa ka naxay markay arkeen meydadkii dhakhtarka iyo shaqaalihii caawiyey oo saqafka laga soo laalaadiyey. waxaa la bixiyey ogeysiis loogu sheegayo inay tani ku dhici doonto qof kasta oo isku daya inuu sharciga jabiyo oo wax istabamarin sameeya. dhanka kale Junho wuxuu weli joogaa qolkii xafiiskii kormeeraha, waxaanu sawirro ka qaaday dukumentiyadii uu u arkayay inay muhiimka ahaayeen. isagoo raadinaya faylkii walaalkii ayaa waxa uu maqlay taleefan dibadda ka dhacaya. ninkii kormeeraha ahaa ayaa qolkii soo galay, waxaanu qabtay taleefankii. wuxuu nin ajnabi ah kula hadlay English, isagoo uga warramay carqalad yar oo ka kala dhex dhacday shaqaalaha. waxaanu u ballan qaaday qofkii uu la hadlayay in wax kastaaba ay sax noqon doonaan markii VIPdu timaado. kadib markuu kormeerihii ka baxay, Junho wuxuu qaaday taleefankii, waxaanu isku dayay inuu ku celiyo oo uu garaaco nambarkii, balse wuu u shaqayn waayay. dhinaca kale ciyaaryahanadii waxaa loo qaaday qol cad oo maran, halkaasi oo ay laba qof iskugu kala saari doonaan. tiimka Giyun sidoo kale way kala bixi doonaan, midba midkii kalu eegay, iyagoo khalkhalsan oo og inay hadda iska soo horjeedsan doonaan. Minyu waxay isku dayday inay si macaan ula hadasho Giyun si ay tiim u wada noqdaan. markuu hadli waayey waxay u kacday dhankii Sangu, kaasi oo sidoo kale diiday dalabkeedii. Sangu wuxuu weydiistay Ali inay tiim wada noqdaan, labadoodiina waxay wada eegeen Giyun si ay u arkaan inuu diido iyo in kale. Giyun wuxuu u sheegay inaanu waxba ka qabin oo ay israaci karaan, waxaanu isna bilaabay inuu raadsado qof ay tiim wada noqdaan. ilnam ayaa dhankiisa u soo dhaqaaqay, balse Giyun wuxuu og yahay inaanu guulaysan karin haddii uu ninka da'da ahi raaco. waanu raali geliyey, balse ilnam keliya wuxuu u dhiibay jaakadiisii, isagoo u sheegay in haddii aanu haysan jaakad ay kuwa kale u malayn doonaan inuu ka hooseeyo. Giyun wuxuu dhabtii ka xumaaday arrintaa uu ku sameeyey, waanu u naxay ninkii odayga ahaa. balse si kastaba ha ahaatee wuxuu raadsaday xubin kale. Saibiak iyo Jion ayaa sidoo kale tiim noqday. nin ayaa Giyun ka codsaday inay koox wada noqdaan. wuxuu u sheegay in maadaama uu dhakhtarkii dhintay uu ciyaartooyda midadhinaan doono, sidaa darteedna qofka aan qof helin ay u badan tahay in la dili doono. Giyun wuxuu eegay ilnam oo keligii fadhiya meel koorna ah, waxaanu dareemay inay wax aad u xun tahay inuu ka tago. sidaa darteed wuxuu weydiistay ninkii odayga ahaa inay tiim noqdaan. ugu dambayntii qofka keliya in qof ay raacdi helin waxay noqotay Minyu. waxay samaysatay buuq ay ugu sheegaysa dadkii inaanay la'aanteed guulaysan karin. markii ay ciyaartooydu u dhaqaaqeen xaggii ay ciyaarta ka ciyaarayeen, iyada waxaa qaaday ilaaladii. intaa kadib ciyaartooydii waxaa la keenay guryo yaryar oo aan run ahayn oo isku agyaala wadooyina leh oo u samaysan sidii xaafadaha. ilnam iyo Giyun waxay ka wada hadleen wadooyinkan yaryar ee u eg guryahoodii caruurnimadii. xagga Ali iyo Sangu uu midba midka kale u ballan qaaday inay lacagta si wada jir ah qoysaskooda ugu guulaysan doonaan. si kastaba ha ahaatee dhammaan qorshayaashoodii waxay guul daraysteen markii la ogeysiiyey in labadaa israacay ay iska soo horjeedsan doonaan oo mid soo hadhi doono. mid kasta waxaa la siiyey 10 fataatiirood, waxaana loo sheegay inay isla ciyaaraan ciyaarta ay doonaan. inta ugu badani waxay doorteen ciyaarta fataatiirta godka lagu ridayo iyo ciyaarta uu mid qiyaasayo inta fataatiirood ee uu ka kala gacanta ku hayo. waxaa la siiyey 30 minit oo ay ciyaarta ku dhameeyaan. Giyun wuu naxay, balse ilnam wuxuu eegayaa fataatiirtii, waxaanu ugu muuqdaa inay fataatiirtu soo jiidatayba. wuxuu gebi ahaan bayloobay wuxuu uu meesha u joogay. markay ciyaartu bilaabantay qof kasta wuxuu bilaabay inuu ciyaaro, balse ilnam wuxuu ku soo wareegaystay guryihii isagoo gurigiisii ka dhex raadinaya. Giyun wuxuu isku dayay inuu joojiyo, balse ma rabo inuu ciyaarta ciyaaro, isagoo u sheegay inay waxaan caruurnimo tahay. ugu dambayntii Giyun wuxuu ninkii odayga ahaa dib ugu dhuftay gidaarka isagoo cadhaysan, isla markaana ogsoon in labadooduba la dili doono haddii aanay ciyaarin. ilnam wuxuu la gariiray cabsi, waxaanu aqbalay inuu la ciyaaro.
dhinaca kale cali iyo sangu oo midba midka kale ula dhaqmo sidii ay walaalayihiin ayaa iminka iska soo horjeedsaday. cali ma rabo inuu ciyaarta ciyaaro, balse sangu wuxuu ku adkaystay inay ciyaaraan ama haddii kale labadooduba way guul daraysanayaan. cali xataa ma garanayo sida loo ciyaaro, sidaa darteed sangu ayaa baray. mid ka mid ahi waa inuu tiro cayiman oo fataatiiraha ku qariyaa gacantiisa, ka kalena wuxuu qiyaasi doonaa in tirada fataatiirtu ay tahay tiro kinsi ah ama tiro dhaban ah. haddii ay qiyaastu sax tahay, dhammaan fataatiiraha uu qofku gacanta ku hayo waxaa qaadan doonaa qofka sida saxda ah u qiyaasay. labadoodii waxay bilaabeen ciyaartii. cali ayaana ugu horrayntii qiyaastii saxda ahayd sameeyey, isagoo qaatay 2 ka mid ah fataatiirihii sangu. ugu dambayntii cali ayaa ku guulaystay dhammaan fataatiirihii sangu marka laga reebo mid keli ah. markii la bilaabay in dadkii la laayo, sangu ayaa u sheegay inuu garanayo hab ay labadooduba ku guulaysan karaan. miskiinkii cali oo aan rabin inuu sangu dhimashadiisa aanu sabab u noqon ayaa dhegaystay qorshihiisii. sangu wuxuu u sheegay in ciyaarta dhammaadkeeda aanay ciyaartoydu isku raaci doonin qofka guulaysta, sababtoo ah waxaanay isla fahmi doonin sharciyada ciyaartan. shaqaaluhuna waxay samayn doonaan hab keliya oo ay taa ku xaliyaan, taasi oo ah inay labadii qof kala bedelaan oo ay tiim kale ku beegaan. sidaa darteed waxay heshiis ku gaadheen inay ku soo wareegaan goobta ciyaarta oo ay soo raadiyaan ciyaartoy ka da'weyn oo ay ugu dambaynta la ciyaaraan. cali muu fahmin qorshaha sangu, balse wuxuu ku raacay wax kasta oo uu rabo, sababtoo ah uu aaminsan yahay isaga. sidoo kale wuxuu sangu fataatiirihii ugu guntay maro, waxaana ugu xidhay qoortii si aanu qofna ugu xoogin. dhinaca kale jiyun iyo saybiyak meel bay wada fadhiisteen iyagoon garanayn waxay sameeyaan. saybiyak oo ka timiday kuuriyada waqooyi maba garanayso ciyaar lagu ciyaaro fataatiirta, sidaa darteed jiyon ayaa u sheegtay inay iyadu barayso, balse labada gabdhoodba ma rabaan inay 30 minad ciyaaraan. sidaa darteed waxay go'aansadeen inay wada hadlaan oo keliya wakhtiga inta ugu badan, dhammaan fataatiirahana ay ugu dambayntii ciyaar keliya ku kala guulaystaan. saybiyak oo aan caadi ahaan iyadu jeclayn inay wax badan hadasho ayaa u sheegtay in aabbaheed dhintay isagoo raba inuu xuduudda ka soo gudbo. hooyadeedna ay qabteen booliiska jaynuhu ayna dib ugu celiyeen waqooyiga kuuriya. waxay rabtaa inay guri iibsato, hooyadeedna ay dib u soo ceshato markay lacagta ku guulaysato. jiyon ayaa ku qosashay, waxaanay u sheegtay inay lacagtaa waxaa wax ka badan ku qabsan karto. saybiyak ayaa si miskiinnimo ah u tidhi inay rabto inay booqato jasiiradda jeju, halkaas oo ay jiyonna u sheegtay inay rabto inay wada tagaan. waxay xaqiiqsadeen inaanay taasi dhici karin, sababtoo ah mid ka mid ah ayaa maanta dhiman doona. jiyon ayaa intaa kadib u sheegtay inay gacanteeda ku dishay aabbaheed oo aad ugu xumaa, isla markaana la xidhay. ma laha ujeeddo ay u sii noolaato xataa hadday lacagta ku guulaysato. dhinaca kale ilnam iyo guyun ayaa bilaabay ciyaartii. ilnam ayaana ku guulaystay 5 ka mid ah fataatiiraha guyun keliya wareegii ugu horreeyba. siday u wadeen, guyun waxaa lagu soo reebay 1 fataatiir oo keliya. wuxuu isagoo walaacsan markasta ku qiyaasayay in tirada fataatiiraha ee gacanta ugu jira ilnam ay yihiin tiro kinsi ah, balse waxay markasta noqonayeen tiro dhaban ah. guyun wuxuu guul daraystay ciyaartii. si kastaba ha ahaatee, ilnam wuxuu iloobay wixii uu guyun qiyaasayay, taasi oo u ogolaatay inuu guyun bedelo jawaabtiisii. laga bilaabo wareegga, guyun wuxuu bilaabay inuu kaga faa'iidaysto xanuunka ilowshiyaha ee ilnam haya si uu ciyaar kasta ugu guulaysto. ugu dambayntii ilnam waxa u soo hadhay 1 fataatiir, balse halkii uu ka ciyaari lahaa wuxuu bilaabay inuu mar kale gurigiisii raadiyo. sidaas si la mid ah, diyaagsu ayaa isna sidoo kale kaga guulaystay ciyaartii. mid ka mid ah kuwii uu maamulayay, markii ninkaa mid ka mid ah fataatiirihiisii ay ku sii dhacday godkana ay ku riday fataatiirtii diyaagsu oo qarka taalay. jiyon iyo saybiyokna waxay go'aansadeen inay 1 fataatiir ku tuuraan gidaarka. kii ay fataatiirtiisu u dhowaatay gidaarka ayaana guulaysanaya. saybiyak ayaa ku horreysay, si fiican ugu dhoweysay gidaarka, balse markii la gaadhay jiyon markeedii waxay si caajisnimo ah ugu tuurtay fataatiirtii dhulka, iyadoo saybiyok ka dhigtay inay guulaysato. saybiyok ayaa ku qaylisay oo u sheegtay inay mar kale ku ceshato oo aanay sidaasi cadaalad ahayn. si kastaba ha ahaatee, jiyon ayaa u sheegtay inaanay jirin waxay u noolaataa oo aanay sideedoo kale ahayn. waxay isa salaameen maca salaamayntoodii ugu dambaysay ka hor intaanu mid ka mid ah shaqaalihii aanu toogan oo aanu dilin jiyon.
dhinaca kale cali wuxuu dib u soo raadiyey saanguwo sababtoo ah ciyaarta dhammaadkeedii minidaa ka hadhay markuu eegay shandadii fataatiiruhu ugu jireen wuxuu xaqiiqsaday in saaxiibkiisii walaalkii oo kale ahaa uu qiyaamay saanguwo wuxuu cali fataatiirihii ugu bedelay dhagaxaan cali waxaa ka soo daadatay ilmadii ugu dambaysay isagoon aaminin waxa weli ku dhacay ayuu toogtay oo uu dilay ninkii gaadhka ahaa hadda ilnam iyo guyuun oo keliya ayaa hadhay waa inay ciyaaraan ciyaartii ugu dambaysay si uu guyuun u guulaysto balse ilnam wuxuu u soo jeediyey in mar keliya ay wada dhigtaan ciyaarta oo qofkii markaa guulaystaa uu fataatiiraha wada qaato guyuun wuu hanaaqay isagoo sheegay inaanay taasi cadaalad ahayn waxaa guyuun ka yaabiyey markuu ilnam u sheegay inuu ogyahay inuu guyuun khiyaamay ninkan odayga ahi wuxuu isku yaalay ilowshiyo been ah si uu guyuun u guulaysto ugu dambayntii ilnam isagoo faraxsan ayuu fataatiirtiisii ugu dambaysay u dhiibay guyuun waxaanu uga mahad celiyey inuu isaga la ciyaaro guyuun markii ugu dambaysay ayuu habsiiyey saaxiibkii waxaanu gurigii ka soo baxay isagoo ooyay xalqadii ugu dambaysay waxay ku dhammaatay ilnam iyo cali oo dhimanaya iyagoo iska soo horjeedsaday saaxiibadoodii guyuun waxay shaqaalihii cali ku rideen naxash halka ciyaaryahanadii kale ee guulaystay ciyaarta dib loogu qaaday qolkii diyaagsu ayaa markii ugu horraysay qolka galay waxaana ka yaabiyey inuu ku dhex arko minyuu oo si nabad ah ugu nasanaysa sariirteedii way ka maadsatay waxaanay ugu faantay inaanay ciyaarta ka qayb qaadan sababtoo ah qof la ciyaara ayay weyday waxa ugu muhiimsan ee ciyaartani waa inay noqoto mid cadaalad ah maadaama dhakhtarka dhimashadiisii ay sabab u noqotay inaanay qof la ciyaaro helinna minyuu waa la badbaadiyey hadda waxaa nool 17 ciyaaryahan qol kalena kormeerihii wuxuu taleefon ka helay dadkii VIP-da ahaa iyagoo ku wargeliyey inay ku dhow yihiin inay yimaadaan koolkii markuu dhammaaday kormeerihii wuxuu soo qaatay baaskooladiisii waxaanu Junho u sheegay inuu dibadda u soo baxo Junho wuxuu dhagtii taleefonka u dhigay dhinac kale oo aan ahayn dhinacii uu kormeeruhu u dhigi jiray taasi oo uu ku ogaaday inuu meesha ku jiro kormeerihii wuxuu ku dhex wareegay qolkii isagoo raadinaya qofkan soo galay meesha isagoo raadintiisii dhexda kaga jira ayaa waxaa ka soo dhex galay telefoon shaqaalihiisii ayaa waxay meyd ka heleen xeebta jasiiradan waqooyigeeda markuu baxo waxaynu arkaynaa in Junho uu ku daba dhuumanayo khaanadaha gadaashooda dhinaca kale dhammaan ciyaaryahanadii waxaa ku furmay cidhiidhi iyo walaac dhammaantood waxay mas'uul ka noqdeen dhimashada qof ay aad ugu dhawaayeen si kastaba ha ahaatee saanguwo ayaa guyuun u sheegay inaanu wax badan saa isku sii murjin sababtoo ah ninkii da'da ahaa wuxuu ahaa qof shisheeye ah oo uu yaqaanay oo keliya dhowr cisho mid ka mid ah ciyaaryahanadan ayaa xaruntan xaaskiisa la yimiday labadooduna way wada jireen oo way istoorteen ciyaartii ugu dambaysay xaaskiisiina isagaa dilayba oo ay gacantiisa ku baxday waxaa ka lumay kantaroolkii waxaanu qof kasta u sheegay inay waalidan joojiyaan oo ay u codeeyaan in la joojiyo labada ciyaarood ee ugu dambeeya ee hadhay saanguwo ayaa mucaaraday waxaanu kula dooday inay lacagtu u qalanto nolosha dadkii dhintay oo dhan waqtigan ay joogaanna aanay quusan karin xataa wuxuu ninka u sheegay in haddii uu dembi dareemayo ay ahayd inuu isagu dhinto xaggii ay xaaskiisu ka dhiman lahayd saanguwo hadda wuxuu muujiyey dhinaciisa naxariista daran isagoo calina khiyaamay kuna sababay inuu dhinto balse guyuun wuxuu hadda xaqiiqsaday inuu saaxiibkii aad u iimaan laayahay dhinaca kale kormeerihii wuxuu u tegey meydka qofkii uu Junho ku tuuray badda markii ugu horreysay ee uu imanayay jasiiradda waxay IDgii Junho ka heleen ninka jeebkiisa waxaanay ka soo qaadeen inuu ahaa sarkaalkii booliiska ahaa balse kormeerihii wejigiisa isbedelay markuu arkay IDga intaa kadib waxaa ku soo dhacay taleefon u sheegaya inay VIP-dii timiday kormeerihii degdeg ayuu u baxay si uu ula kulmo booskiisa kaasi oo ah ninka ugu weyn meesha isla markaana ah ninka qabanqaabiyey ciyaartan wuxuu iska qaaday maaskara cajiib ah oo dahabi ah oo leh qaab xayawaaneed waxaanu u sheegay kormeerihii inuu meesha keenay VIP-da sababtoo ah isagu ma rabo inuu noqdo ka soo dhaweynaya waxaa dhacday in VIP-da ay noqdeen qaar ajnabi ah oo taajiriin ah kuwaasi oo khamaar ku dhigtay ciyaaryahanada naftooda sida ay dadku khamaar ugu dhigtaan fardaha oo kale waxaa soo dhaweeyey kormeerihii kaasi oo raali geliyey isagoo ku hadlaya magaca qabanqaabiyaha meesha waxaanu u kaxeeyey qol si gaar ah loogu qaabeeyey dhinaca kale qolkii qofna habeennimadii muusaxan iyagoo ka baqanaya in la dilo ninkii xaaskiisu dhimatay waxaa naftiisa ka buuxsamay qoomamo iyo dembi uu u dulqaadan kari waayey wuxuu xasuustay hadalkii saanguwo oo u sheegay inuu isagu dhinto oo uu guhiisa sariirta isku daldalo ugu dambayntiina ninkii wuxuu iska soo daldalay sariirihii korkooda mid ka mid ah VIP-dii ayaa arrintan ka arkay kamaradii ilaalinaysay waanu xanaaqay sababtoo ah ninkaasi waa ninkuu $1 milyan oo sharad ah ku dhigtay
kuwii kale ayaa ku qoslay iyagoo u sheegay in lacagtu ay tahay dhibaatooyinkooda ta ugu yar waxaana ay u samaynayaan madadaalo ahaan. isla markiiba Junho ayaa aftuubtay kabalyeeri ama mudalab loogu talagalay inuu VIP-da cabitaan u geeyo. wuxuu ka bedeshay dharkiisii waxaanu iska dhigay mudalabkii kadib markuu dilay. sidoo kale wuxuu geliyay telefoonkiisii gacantiisa hoosteeda si uu u duubo wax kasta oo uu arko. dhinaca kale ciyaaryahanadii waxa toosiyay saacad waxaanay arkeen naxash la soo geliyay gudaha. ugu dambeyntiina waxay arkeen inuu ninkii isdilay ka hor intii aanay fahmin wixii meesha ka dhacayay. waxaa loogu yeeray ciyaartii shanaad. VIP-dii waxay ku nasteen qol qurux badan iyagoo daawanaya ciyaartoydii isla markaana go'aansanaya cidda ay sharadka ku gelayaan. Junho ayaa meeshii soo galay mid dhaqan xun oo VIP-dii ka mid ah ayaana indhihiisu ku dhaceen oo u yeedhay. Junho oo u dhow ayuu u yeedhay waxaanu u sheegay inuu agtiisa joogo. ciyaaryahanadii waxaa mar kale la keenay qolkii madhnaa ee caddaa balse markan waxaa meesha yaala alaabta lagu xayeysiiyey dharka oo hortooda la dhigay oo midkiiba lambar loo xidhay. waxaa loo sheegay inay lambarka ay doonaan ay doortaan. qof kasta wuxuu isku dayay inuu kuwa dhexe doorto sababtoo ah inaad ka ugu horeeya ama ka ugu dambeeya doorataa waa halis. ka hor intaanu guyon midba dooran waxaa meeshii lagu soo reebay nambarkii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyey. Giyon wuxuu malaystay in haddii uu ka ugu horreeya noqdo laga yaabo inuu waqti badan helo jaaniska guushiisuna ay fiicnaato. balse ciyaartooy kale ayaa weydiistay inuu isagu nambarka qaadan karo waxaanu taa beddelkeeda qaatay nambarkii ugu dambeeyey. intaa kadib waxaa la keenay meeshii ay ku ciyaari lahaayeen ciyaarta. meeshu waxay leedahay bridge ka samaysan muraayado badan halkaas oo la rabo inay ka gudbaan balse qaar ka mid ah muraayadahan ayaa khafiif ah oo markaaba hore u jabaya markay ciyaaryahanadu ku dul istaagaan taasi oo qofka ku sababaysa inuu dhaco oo uu dhinto. ninkii qaatay nambarkii ugu horreeyey ayaa meesha ugu hormaraya sidaa darteedna jaaniska uu ku guulaysanaya aad buu u hooseeyaa. qofkii ugu horreeyey wuxuu aqbalay qadartiisii hore ayaanu u dhaqaaqay. markuu tii koowaad dhaafay ee uu tii labaad ku booday ayay la jabtay oo uu dhintay. sidaas la mid ah ninkii labaad dhaqso ayuu uga boodbooday dhowrkii muraayadood ee ugu horreeyey balse ugu dambeyntii wuu dhacay. waqti kadib waxaa la soo gaadhay waqtigii uu baadarigu hore u dhaqaaqi lahaa. wuxuu bilaabay inuu rabbigiisa baryo xaggii uu hore u socon lahaa isagoo ku xanaaqay dadkii ka dambeeyey. qofkii ka dambeeyey ayaa isku dayay inuu hore u riixo balse isagii ayay la jabtay muraayadii oo ka dhacay. baadarigii ilaahay ayuu uga mahadnaqay badbaadinta uu badbaadiyey balse haddana markiiba waxa riixay qofkii ka dambeeyey. Sanguwo wuu walaacsan yahay sababtoo ah kuwan ka horreeya waqti badan ayay ku qaadanaysaa inay ka gudbaan meesha taasi oo isaga Saibiak iyo Giyon ku sababi karta inuu waqtigu ka dhaco intaanay gaadhin. ugu dambeyntii qofkii Diaksu ka horreeyey ayaa dhacay taasoo ka dhigtay inuu ka ugu horreeya noqdo. isaga laftarkiisu wuxuu aad uga baqanayaa inuu hore u socdo sidaa darteed wuxuu u sheegay ninkii uu xukumayay ee ka dambeeyey inuu isagu hore u socdo. si kastaba ha ahaatee ninkii kuma raacin isagoo u sheegay inay arrintu hadda taagan tahay nolol iyo geeri. dhinaca kale ninkii dhaqanka xumaa ee VIP-da ahaa waxaa soo jiitay Junho. haddana wuxuu weydiistay inuu agtiisa fadhiisto. wuxuu shukaansi ku bilaabay Junho waxaanu ku yidhi iska saar maaskarada. Junho wuxuu og yahay in haddii uu iska qaado isaga la ogaanayo balse ninkii VIP-da ahaa uu ku adkaystay. markii uu si kala garan waayey wuxuu ninkii u sheegay inay qolkaa tagaan oo uu markaa iska qaadayo maaskarada. ninkii wuxuu gebi ahaanba iska iloobay ciyaartii waxaanu raacay Junho. markii qolkii ay tageen Junho ayaa ula soo baxay baaskooladiisii waxaanu ninkii ugu hanjabay inuu maaskarada iska qaado. waxaa dhacday inuu ninkii noqday nin Maraykan ah oo da'aha dhexe ku jira oo hanti badan leh. Junho wuxuu bilaabay inuu caddayn ahaan fiidiyo uga duubo isagoo ninkii u sheegay inuu sheego wax kasta oo uu og yahay. markaan ciyaartii ku noqono Minyo ayaa riixday oo ka tuurtay muraayadii ninkii Diaksu uu maamulayay ee ka dambeeyey waxaanay gashay meeshiisii. iyada iyo Diaksu ayay isku tuurtuureen ka hor intaanay ku raacin inay isaga ka hormarto. ma rabto inuu waqtiga ka rido sababtoo ah waxaa hadhay oo keliya 3 minit. waxay u sheegtay inuu dhinac uga leexdo waxaanay ku dul istaagtay muraayadii uu ku taagnaa balse xaggii ay hore u socon lahayd waxay qabsatay oo ay isku marmartay ninkii. Minyo waxay Diaksu xasuusisay markii ay ugu hanjabtay inay dili doonto haddii uu weligeed iyada khiyaamo. Diaksu wuxuu isku dayay inuu iska furfuro balse muraayada dusheeda dhaqdhaqaaq badan kuma samayn karo. ugu dambeyntii waxay si ula kac ah uga dhacday bridge-kii iyadoo Diaksu sii qaadatay. hadda 4 ciyaaryahan oo kaliya ah ayaa hadhay. Giyon oo ugu dambeeya, Saibiak oo ku xigta iyo Sanguwo
xagga ugu horreeyana waxaa ku jira nin da ah kaasi oo sheegtay inuu muraayadaha samayn jiray uuna u leeyahay khibrad 30 sano ah. ninkani wuxuu sheegi karaa farqiga u dhexeeya labada nooc ee muraayadaha ah isagoo eegayo kaliya sida uu iftiinka ku dhacaya uga soo humaag noqonayo. wuxuu si fudud u dhaafay dhowrkii muraayadood ee ugu horreeyay isagoo kooxdii u dhaweeyay dhankii guusha, balse VIPD waxay xaqiiqsadeen inuu ninkaasi kala saari karo farqiga u dhexeeya muraayadaha. kormeerihiina wuxuu ka damiyey leedhkii. hadda waxa uu hadhay muraayadii ugu dambeysay, balse ma kala garan karo inay tahay tii jabaysay iyo inay tahay tii adkayd. markii uu waqti badan qaatay ee uu dhaqaaqi waayey, Sang-woo ayaa ninkii ula tegay faraha, waxaanu ninkii ku riixay muraayadii isaga ka horreysay. muraayadiina way jabtay. Sang-woo wuxuu si fudud uga booday muraayadii kale waanu guulaystay wareegii. Sae-byak iyo Gi-yoon sidoo oo kale ayay sameeyeen, waxaanay dhaafeen ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay. muraayadihii hadhay dhammaantood way qarxeen iyagoo sidoo kale dhaawacay kuwii guulaystay. Sang-woo iyo Gi-yoon waxaa soo gaadhay xagtimo, balse Sae-byak si daran ayay u dhaawacantay. dhinaca kale kormeerihii wuxuu u sheegay xubno ka mid ah shaqaalihii inay soo eegaan waxa ku dhacay ninkii VIPda ahaa iyo kabalyeerigii, balse waxay arkeen inay labadoodiiba meesha ka maqan yihiin. sidoo kale shaqaalihii waxay ogaadeen in mid ka mid ah taangiyadii oksijiintu ay meesha ka maqan tahay, taasi oo caddaynaysa in ninkii meesha soo galay u baxsaday. kormeerihii laftarkiisa ayaa doon fuulay si uu u soo raadiyo ninka. Sang-woo, Sae-byak iyo Gi-yoon waa saddexda keliya ee ka soo hadhay 456 ciyaaryahan ee ugu horreyntii yimiday. waxaa dib loogu qaaday qolkii, halkaas oo uu Gi-yoon ku yasay Sang-woo ninkii uu dilay awgeed, waxaanu u sheegay inay meesha soo wada dhaafi karayeen. dhinaca kale Sang-woo ayaa u sheegay inuu ka mahadnaqo inuu isagu meesha joogay oo uu shaqadaa xun ka qabtay. wuxuu Gi-yoon ugu yeedhay doqon aan garanayn sida ay nolosha dhabta ahi u shaqayso. dhinaca kale Sae-byak waxay fadhidaa sariirtii iyadoo dhinacyada is haysa. labadii oo dagaalamaya ayaa waxaa meesha soo galay shaqaalihii, waxaanay ugu hambaliyeeyeen inay ka soo gudbeen 5 wareeg. ugu dambayntiina ay kii 6aad galayaan. ciyaaryahanadii midkiiba waxay u dhiibeen bogos, waxaanay ku casuumeen meel khaas ah oo loogu talagalay. Sae-byak waxay tagtay xamaamkii, waxaanay iska saartay dharkii iyadoo ogaatay in muraayad weyni ay ka gashay caloosha. waxay iskaga saartay si aad u xanuun badan, waxaanay ku duuduubtay dhaawacii maradeedii. bogoskii ay siiyeen shaqaaluhu waxaa ku jira dhar qurux badan, taasi oo laga rabo inay ciyaaryahanadu ku labistaan. intaa kadib ciyaaryahanadii waxaa la keenay miis casho oo 3 xagal ah, waxaana la siiyey casho sharafeed. labadii nin cuntadii gebi ahaanba way dhameeyeen marka laga reebo Sae-byak oo aan iyadu cuntadii waxbaba ka taaban dhaawaceeda awgeed. kadib markay dhameeyeen, shaqaalihii waxay qaadeen weelkii ay wax ku cunayeen, balse waxay uga tageen mindiyo. dhinaca kale Junho wuxuu ka baxsanayaa kormeerihii, waxaanu aakhirkii gaadhay dhinac kale oo jasiiradda ka mid ah. ugu dambayntii teleefankiisii waxa u soo noqday khadkii, waxaanu u diray taliyihiisii sawirradii uu ka dhex qaaday xarunta, balse ka hor intii aanu cararin shaqaalihii iyo kormeerihii ayaa soo gaadhay. hadda wuxuu u dhexeeyaa shaqaalihii iyo gebi aad u dheer, mana jirto si uu xaaladda uga bixi karaa. kormeerihii ayaa u sheegay inuu baaskoolada dhigo, balse Junho kamuu dhaqaaqin meeshii, baaskooladiina muu dhigin. sidoo kale kormeerihii isna dib ugamuu noqon, taa beddelkeedana wuxuu ku sii dhaqaaqay ninkii askariga ahaa, taasi oo ku qasabtay Junho inuu garabka ka toogto. isla waqtiga kormeerihii wuxuu ugu dambayntii iska qaaday maaskaradii. Junho wuxuu la gariiray naxdin markuu wejigiisii arkay. kormeerahani waaba Junho walaalkii oo la yidhaa Inho, waa ninkii uu Junho waqtigaas oo dhan raadinayay. Inho wuxuu baaskooladii ku qabtay walaalkiisii yaraa, waxaanu si aanu rajaynayn u toogtay walaalkii. Junho ugu dambayntii wuxuu ku dhacay baddii, waanu dhintay. markaan ku noqonno xaruntii, saddexdii waxay ku soo noqdeen qolkii, waxaanay kala fadhiisteen 3 xareerood, isagoo mid kastaaba midka kale ka fogaanaya inta suurtagal ah. Gi-yoon wuxuu u tegay Sae-byak, waxaanu weydiiyey inay caadi tahay iyo in kale. Sae-byak waxay isaga markii ugu horreysay ku soo taagtay mindideedii, balse dib ayay uga celisay markii uu u sheegay inaanu ugu iman inuu dhaawac u geysto. Gi-yoon wuxuu ka codsaday inay wareegga soo socdaa si wadajir ah u shaqeeyaan, sababtoo ah Sang-woo mar dambe ma aaminayo. Sae-byak oo weli xanuun daran haysto ayaa weydiisay waxa uu ku qaban doono haddii uu lacagta ku guulaysto. Gi-yoon ayaa u sheegay inuu deynta lagu leeyahay iskaga bixin doono, hooyadiina uu ku daaweyn doono, inantiisana uu aabba fiican u noqon doono. Sae-byakna waxay uga warantay walaalkeeda yar
labadii waxay isku ballan qaadeen inuu midba midka kale qoyskiisa daryeelo haddii uu mid lacagta ku guulaysto. intaa kadib Guyon wuxuu arkay Sang-woo oo ku sii gamaya sariirtiisii. wuxuu u dhaqaaqay dhinaciisii isagoo mindidii wata, balse Sae-byak ayaa joojisay iyadoo u sheegaysa inaanay heerkiisoo kale hoos ugu noqon. intaa kadib Guyon wuxuu ogaaday Sae-byak dhaawaceeda waxay si aad ah ugu dhiig baxaysaa maradeedii. Guyon wuu argagaxay waxaanu bilaabay inuu ku qayliyo shaqaalihii. sidii uu albaabka u garaacayay, qaar ka mid ah shaqaalihii ayaa soo galay, balse waxay sitaan naxash. Guyon wuxuu dib u eegay Sae-byak waxaanu ka war helay Sang-woo oo iyadii dul taagan isagoo mindidiisii wata. wuxuu geliyey mindidii ilaa ay ka dhimanaysay, waxaanu ka gaadhsiiyey intii uu Guyon baryayey. Guyon waxaa ka lumay kontaroolkii, waxaanu ruxay meydkii Sae-byak isagoo isku dayaya inuu kiciyo. wuxuu weeraray Sang-woo isagoo cadhi ka buuxdo, balse waxaa qabtay ilaaladii. ugu dambayntii waxay qaadeen meydkii Sae-byak waxaanay ku gubeen foornadii. labada tartame ee ugu dambeeya ciyaartu waa Guyon iyo Sang-woo. kadib dhimashadii Sae-byak, Guyon iyo Sang-woo waxaa loo qaatay ciyaartii lixaad ee ugu dambeysay isagoo midba midka kala hortaagan. shaqaalihii waxay u soo bandhigeen in ciyaarta ugu dambeysa ay labadooduba kala noqon doonaan weerar iyo difaac. Guyon ayaa ku guulaystay shilintuurkii waxaanu doortay weerar. Sang-woona wuxuu noqonayaa difaac. intaa kadib labadoodii waxaa la geeyey garoonkii ay ciyaartii ugu horreysay ee red light green light ay ku ciyaareen. garoonka dhexdiisana waxaa lagu sawiray sawir qaabkan ah. VIPdii waxay mar kale ka soo daawanayaan ciyaarta madasha la joogo qaybteeda sare. kormeerihii wuxuu u sharaxay ciyaaryahanadii in ciyaarta ugu dambeysa la yidhaa Squid Game waa ciyaar ay carruurtu ciyaari jireen oo sannado badan ka hor Kuuriya lagu ciyaari jiray. soo weeraraha oo ah Guyon waxaa looga baahan yahay inuu soo dhex galo shaxanka sawiran dhexdiisa si uu ugu guulaysto ciyaarta. waa inuu orod ku dhaafaa difaaca oo ah Sang-woo, aanu soo taabtaa shaxanka madaxiisa ugu sarreeya. dhinaca kale haddii uu Sang-woo sida uu Guyon u riixayo uu shaxanka sawiran ka dhex saaro, ciyaartu wuu guulaysanaya. ugu dambayntiina sabab kastaba ha ahaatee, haddii mid ka mid ahi aanu ciyaarta sii wadi karin, qofka ugu dambeeya isagu sii wada ayaa guulaysan doona. markay dhex istaageen shaxankii dhexdiisa, Guyon wuxuu weydiiyey shaqaalihii ag joogay xaaladee markuu qofku gaadho ayaanu ciyaarta sii wadi karin. shaqaalihii wuxuu ugu jawaabay in xaaladda aanu qofka ciyaarta sii wadi karin ay tahay haddii ciyaaryahan ku dhinto. wuxuu ciyaaryahanada u tilmaamayaa in ugu dambaynta inuu midka kala dilo la rabo. kormeerihii wuxuu u sheegay VIPdii in ciyaartan uu ogol yahay nooc kasta oo rabshad iyo dagaal ah, isla markaana aanay jirin wax diidaad ahi. Guyon wuxuu istaagay halkii loogu talagalay waxaanu xidhay tixiisii isagoo u diyaar ah inuu la dagaalamo saaxiibkiisii hore. halka Sang-woo uu halkiisii istaagay isagoo midi la soo baxay. ugu dambayntii ciyaartu way bilaabantay. Guyon wuxuu weydiiyey Sang-woo haddii uu xasuusto sida ay ciyaartan u ciyaari jireen markii ay yaraayeen. markuu Sang-woo isku dayay inuu soo weeraro, Guyon camud ayuu indhaha kaga shubay waxaanu si fudud ugu gudbay qortii hore ee shaxanka. isla waqtiga cirkaa madoobaaday waxaana bilaabantay inuu roob da'o. Sang-woo wuxuu og yahay inuu Guyon u xanaaqsan yahay sababtoo ah wuxuu dilay Sae-byak. wuxuu samaystay cudurdaar isagoo u sheegay inay mar layba dhiman lahayd, aanu ka badbaadiyey oo keliya xanuun badan oo ay mari lahayd. si kastaba ha ahaatee, Guyon way mari weyday wixii uu uga sheekaynayay, waxaanu ku qayliyey isagoo u sheegaya inuu u dilay hunguri weyne awgeed. Sang-woo ugu dambayntii wuxuu caddaystay runta isagoo u sheegay inuu u dilay sababtoo ah Guyon ayaa u joojin lahaa ciyaarta gebigeedaba si uu u badbaadiyo iyada, maadaama markaa ay inta badan u codayn lahayd in ciyaarta la joojiyana wuxuu gurigiisa ku noqon lahaa isagoon wax lacag ahayn. Guyon wuxuu la soo baxay mindidiisii waxaanu u sheegay sidii ay Sae-byak habeenkii ugu dambeysay uga joojisay isaga inuu dilo Sang-woo. intaa kadib wuxuu u sheegay inaanu marnaba u ogolaan doonin inuu Sang-woo lacagta qaato, waanu weeraray. labadoodii way dagaalameen isagoo midba midka kale isku dayay inuu mindidiisa ku dilo, balse waxaa ka dhacay mindiyahoogii waxaana roobka dhexdiisa ku dagaalamayeen gacmahooda. waxoogaa kadib labadoodiiba dhoobo ayaa ka buuxsantay waanay daaleen, balse haddana may joojin dagaalkii. Sang-woo wuxuu gacantiisa la helay mindidii waxaana Guyon ka geliyey bowdada. Guyon wuxuu jiifsaday dhulkii isagoo dhutinaya, halka Sang-woo uu weydiiyey inuu xasuusto meeshan ay ku ciyaarayeen ciyaartii ugu horreysay. wuxuu Guyon ku weeraray mindidii isagoo ujeedadiisu ahayd inuu khaarijiyo oo uu u dhammeeyo, balse mindidii waxay ka gashay sacabkiisii. Guyon wuxuu ka qaniinay cagta, ciyaartiina way isbedeshay, labadiina dhig ayaa ka buuxsamay. Guyon ayaa markii dambe dul koray Sang-woo waxaanu ku weeraray mindidii, balse halkii uu ka dili lahaa wuxuu mindidii geliyey dhulkii u dhowaa madaxiisa agtiisa. kadib xataa markuu Sang-woo waxaas oo dhan ku sameeyey, Guyon muu dilin, si fudud ayuu uga kacay waxaanu u dhaqaaqay madaxii hore ee shaxda.
VIPdii waxay ku dhawaaqeen in Guyun uu yahay guuleystaha. Shaqaalihiina wuxuu baaskooladii ku qabtay Sang-woo oo dhulka jiifay. si kastaba ha ahaatee intaanu Guyun gaadhin madaxii shaxanka dib ayuu u soo noqday waxaanu ninkii ka joojiyey inuu toogto Sang-woo. Wuxuu weydiiyey in haddii ay labadooduba isku raacaan inay ciyaarta joojiyaan inay nolol meesha kaga bixi karaan. Shaqaalihii wuxuu wacay kormeerihii waxaanu weydiiyey inay taasi suurtagal tahay. VIPdii waxay ka naxeen lana tacajabeen inay arkaan Guyun oo rajeynaya inuu u huro lacagta intaa leeg iyo shaqada adag ee uu soo qabtay saaxiibkiisa aan daacad ahayn awgii. Sang-woo oo si culus u dhaawacan ayaa weydiiyey Guyun inuu xasuusto markii ay yaraayeen ee ay hooyadii u karin jirtay cashada maalin kasta markay ciyaarta soo dhamaystaan. Guyun gacan ayuu u fidiyey saaxiibkii waxaanu weydiistay inay magaaladoodii isku raacaan balse Sang-woo uu raali geliyey. Wuxuu ka soo fujiyey mindida dhulka waxaanu isaga laftarkiisa iskaga taagay qoorta. Guyun wuxuu la qaboobay naxdin markuu arkay saaxiibkii oo neeftii ugu dambeysay sii qaadanaya. Sang-woo ayaa isku dayay inuu u sheego wax hooyadii ku saabsan balse isagoo odhan kari la ayuu dhintay. Guyun oo qalbigu ka jabay ayaa ku dul ooyey isagoo gacmihiisa ku haya saaxiibkiisii dhintay. Guyun ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay ciyaarta isagoo ku guuleystay lacag dhan 456 bilyan oo lacagta Kuuriya. Muuqaalka ka xiga waxaynu arkaynaa Guyun oo kormeerihii la saaran gaadhiga Lehman leeyahay. gacmihiisa waa la xidhay indhahana waa laga xidhay sidaa darteed ma arki kara ninka. kormeerihii wuxuu ugu hambaliyeeyey inuu ku guuleystay ciyaarta balse Guyun wuxuu weydiiyey qofka uu yahay halkii uu uga jawaabi lahaa. kormeerihii wuxuu ku furay gaaskii miyir doorsoominaysay ee ku dhex jirtay gaadhiga taas oo Guyun ku sababtay inuu mar kale suuxo. wax yar kadib gaadhigii wuxuu istaagay waddo mashquul badan qof ayaana Guyun dibadda u tuuray. nin ayaa caawiyey Guyun isagoo ka saaray maradii indhaha kaga xidhnayd. Guyun wuxuu xaqiiqsaday inay wax afka ugu jiraan waxaanu soo tufay credit card. wuxuu toos u tagay mishiinkii ATM-ka waxaanu geliyey kaarkii isagoon aad ba uga sii fikirin beenkii. wuxuu geliyey nambarkiisii oo ciyaarta ku ciyaarayay 0456. Guyun intaa kadib wuxuu kala soo baxay warqad kali ah oo 10,000 oo lacagta Kuuriya ah. intaa kadibna wuxuu arkay inay akoonka bankigiisa ugu jirto 456 bilyan oo lacagta Kuuriya ah. si kastaba ha ahaatee Guyun kuma faraxsanaa lacagta intaa leeg ee uu ku guuleystay iyo isbedelka uu galay. dhab ahaana wax falcelinahaba isaga dhankiisa dhimashada 455 qof ee dhintay uma qalanto lacagta akoonka bangigiisa ugu jirta hadda. wuxuu qaatay lacagtii uu biilka ka dhiganayay waxaanu ku noqday gurigiisii isagoo wadadii sii socda ayay Sang-woo hooyadii joojisay waxaanay weydiisay waxa ku sababay dhaawacyadan ku dhacay. islaantii da'da ahayd waxay weydiisay inay wax waraha ka maqashay Sang-woo balse halkii uu taagnaa ayuu ka dhaqaaqi kari waayey. waxaanu dib iskugu celiyey ilmadiisii sababtoo ah wuxuu goobjoog u ahaa markhaatina ka ahaa dhimashadii Sang-woo saacado yar ka hor. wuxuu Sang-woo hooyadii siiyey 10,000 oo ay biil ka dhigato waxaanu ku noqday gurigiisii. wuxuu arkay hooyadii oo jiifta dhulka. wuxuu ku yidhi hooyaka balse nasiib darro may kicin. Guyun hooyadii waxay dhimatay intii uu maqnaa. wuxuu la ooyey xanuun iyo ciil waxaanu jiifsaday iyada agteedii. sababta keliya ee uu Guyun mar kale ugu biiray ciyaartu waxay ahayd inuu hooyadii ka bixiyo lacagta lagu daweynayo balse iyadiina way ka hor dhimatay. muuqaalka waxaa lagu jarayaa oo ka bilaabanayaa sanad kadib. Guyun wuxuu saaran yahay tareen waxaanu u socdaalayaa meel. wuxuu u muuqdaa in qaybkiisu aad u xumaaday. waxa aad ugu baxay timihii garhkiisana muu jarin. wejigiisa weli waxaa ka muuqata murugo sidii uu sanad ka hor ahaa oo kale markuu ciyaartii ka soo noqday taasi oo muujinaysa inaanay wax badani iska bedelin ilaa waqtiga. waxaa dhacday inuu tagayo bangigii lacagta loogu soo shubay ciyaartii kadib. maamulihii bankiga ayaa hadalla macaan kula hadlay maxaa yeelay tirada lacagta bankiga ugu jirta ayaa aad u badan. wuxuu ka rabaa Guyun inuu lacagta akoon kale u wareejiyo si uu u helo dulsaar badan. intii uu ninku la hadlayay Guyun wuxuu ugu jawaabay jawaabo aan caddayn waxaanu u muuqday mid aan gebi ahaanba wax badan danaynayn. wax yar kadib Guyun ayaa kacay waxaanu ka yaabiyey maamulihii isagoo weydiistay inuu amaahiyo 10,000 oo lacagta Kuuriya ah waa $10. maamulihii ama kaag ayuu la aamusay balse haddana wuxuu siiyey lacagtii. Guyun wuxuu ku tagay xeebta agteeda. xaggaas ayaanu fadhiistay isagoo cabaya. gabadh ubaxii iibinaysay ayaa aad uga bariday inuu mid ka iibsado waanu ka iibsaday. ubixii sidoo kale waxay u raacisay envelope yar. Guyun wuxuu furay envelope-kii yaraa waxaana ka yaabiyey inuu ka dhex arko kaadh yar oo dahabi ah oo leh calaamadii Squid Game-ka. xagga dambe ee kaadhka waxaa lagu qoray adrees iyo waqti. Guyun aad ayuu ula yaabay balse waxaa ka go'an inuu jawaabo u helo sababta geemka loo ciyaarayay iyo cidda waxaan oo dhan ka dambeysay.
wuxuu tagay adreyskii ku qornaa kaarka waxaanu galay qol uu nin da' ah oo sariirta isbitaalka ku jiifa uu jiifo markii uu ninkii u dhawaaday Guyun wuxuu la qaboobay naxdin ninkani waa ciyaaryahankii number 1 ee Ilnam wuxuu ku naxay isagoo Ilnam leh Ilnam wuxuu ka codsaday inuu glass biyo ah u keeno si degan ayaanu u siiyay biyihii Guyun wuxuu dejiyay naftiisii waxaanu Ilnam weydiiyay cidda uu dhabahan yahay iyo inuu isagu yahay maskaxdii ciyaarahan ka dambeysay Ilnam wuu iska dhagatiray su'aalihiisii waxaanu u tilmaamay nin cabsanaa oo miyir doorsoomay oo wadada jiifay isagoo ka tusaya daaqada wuxuu weydiiyay Guyun inuu wali dadka aaminayo kadib waxa uu soo maray oo dhan Guyun taa bedelkeeda markii labaad aad ayuu u xanaaqay waxaanu mar kale ku celiyay isla su'aashii intaa kadib Ilnam ayaa u sheegay inuu rabo inuu hadda ciyaar la ciyaaro haddii uu qof caawiyo ninka cabsan ka hor inta aanay saqbarka gaadhin waa 12 habeenimo Guyun ayaa guuleysan doona Ilnamna wuxuu uga jawaabi doonaa dhammaan su'aalihiisa balse haddii aanu qofna caawin ninka cabsan Ilnam ayaa noqon doona guuleystaha Guyun aad ayuu u cadhooday waxaanu eejiyay oo uu cunaha qabtay Ilnam balse wuu ka joojiyay markuu odaygu u sheegay inaanu jawaab heli doonin haddii uu isaga dilo Guyun wuxuu ku qasbanaaday arrintii waxaanu eegay saacadii 20 minute ayaa ka hadhay saqbarkii waxay iyagoo aamusan sugeen inuu qof caawiyo ninkii wuxuugaa kadib Guyun ayaa haddana odaygii weydiiyay cidda uu yahay Ilnam warkiisii uu u adeeyay isagoo u sheegay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay ciyaarta isaga iyo qaar saaxiibadii ka mid ah oo aad u taajiriin ah macnaha taajiriin isnacay ah ayaa waxay dareemeen madax inkastoo lacag badan haysteen haddana nolosha wax farxad ah kumay haysan sidaa darteed waxay dhammaantood la yimaadeen qorshahan si ay si uu noloshooda uga dhigaan mid xiiso badan leh wuxuu rabay inuu la kulmo Guyun sababtoo ah wuxuu ogaaday in lacagtii uu ku guuleystay aanu waxba ka isticmaalin welina uu ku nool yahay noloshiisii hore Ilnam wuxuu Guyun weydiiyay inuu lacagta u isticmaali waayay dambi uu dareemayay awgeed Guyun ayaa si dhaqso ugu jawaabay inuu isagu yahay ka ay tahay inuu dambi dareemo ee dadka badan dilay Ilnam ayaa ku dacwooday in ciyaaryahanadu ay ciyaarta ku yimaadeen doonistooda isaguna aanu qofna qasbin Guyun ayaa intaa kadib weydiiyay sababta uu isaga laftarkiisu ugu soo biiray ciyaarta halkii uu ka daawan karay Ilnam ayaa sheegay inuu u xiisay maalmihii caruurnimadiisii isla markaana uu rabay inuu mar kale ku noolaado sidii caruurnimadiisii ka hor inta aanu u dhiman buro maskaxda kaga taala iyagoo wada hadlaya gabadh ayaa u timiday ninkii cabsanaa ee wadadii jiifay balse isla markiiba way ka dhaqaajisay Ilnam ayaa hadalkiisii sii watay isagoo u sheegay inaanu ka qoomamaynin ciyaartii uu ku biiray sababtoo ah intii uu la ciyaarayay iyagu waxay ahayd waqtigii ugu farxadda badnaa ee soo maray muddo dheer kadib intii uu odhanayay kelmadihiisii ugu dambeeyay ilbiriqsiyo ayaa ka hadhay inay saqbarkii gaadho baabuur booliis ayaa si kedis ah u soo istaagay ninkii cabsanaa hortiisa gabadhii markii hore u timiday ayaa booliiska u tagtay oo ka soo dalbatay caawimo ilbiriqsiyo ka hor saqbarkii ninkii waa la badbaadiyey sharadkiina Guyun ayaa ku guuleystay balse waa goor dambe oo Ilnam wuxuu qaatay neeftiisii ugu dambeysay waanu dhintay ka hor intaanu daaha uga qaadin wax dambe oo ciyaartii ku saabsan Guyun wuxuu markii ugu dambeysay eegay ninkii odayga ahaa wajigiisii waanu ka tagay intaa kadib waxaynu arkaynaa xasuus lagu soo celiyay oo ah markay ciyaarayeen ciyaartii shanaad ninkii ugu weynaa ee ahaa maskaxdii ka dambeysay ciyaarta ayaa iska qaaday maskaradiisii waxaanu muujinayaa inuu isaga laftarkiisu Ilnam ahaa markaynu ku soo noqonno maalinta la joogo kormeerihii ciyaartu wuxuu iskugu laabaya oo uu xidhayaa indhihii Ilnam muuqaalka kaaxiga waxaynu ku arkaynaa Guyun oo timo jaro galay isagoo hadda ka nafisay ogaanshaha maskaxdii ciyaarta ka dambeysay sidaa daraaddeed muddo sanad laga joogo hadda ayuu markii ugu horreysay niyad wanaag dareemaya wuxuu timo jarihii ka soo baxayaa isagoo timo cas ama guduud ah leh taasi oo muujinaysa bilow cusub oo fresh ah intaa kadib Guyun wuxuu tagay xaruntii agoomaha halkaas oo uu Saybiyaak walaalkeed ku nool yahay wuxuu salaamay wiilkii yaraa kaasi oo bilaabay inuu hadlo markuu Guyun soo hadal qaaday Saybiyaak Guyun wuxuu u yimid inuu fuliyo balantii uu sameeyay Saybiyaak wuxuu wiilkii yaraa u qaaday oo uu u geeyay Saanguu hooyadii waxaanu ka codsaday inay daryeesho islaantii da'da ahayd waxay si diiran u soo dhaweysay wiilkii yaraa waxaana ula dhaqantay si kalgacal leh intaa kadib Guyun wuxuu u dhiibay shandad waanu ka tagay kadib markuu tagay waxay furtay shandadii iyadoo jaakad uga raadinaysa wiilka yar balse taa bedelkeeda waxay ku aragtay lacag ka buuxda way yaabtay waxay Guyun ugu yeedhay magaciisii balse mar hore buu tagay intaa kadib Guyun wuxuu u kacay xagga iyo tareenka isagoo inantiisii telefoon kula hadlaya wuxuu tagayaa Mareykanka si uu iyadii sanad kadib ula kulmo
isagoo boostejadii tareenka jooga waxaa si waali ah uga yaabiyey inuu arko ninkii suuq geynayay ciyaartii ee kaadhka siiyey dhibaatadii oo dhanna geliyey. ninkii wuxuu isla ciyaartii la mid ah la ciyaarayaa qof kale waanu dhoola cadeeyey markuu arkay Guyon wuxuu u orday xaggiisii balse ka hor intaanu qaban ninku wuxuu fuulay tareen waanu ka tegey. Guyon wuxuu kaadhkii ka qaaday ninkii kale ee uu la ciyaarayay waxaanu uga digay si kastaba ha ahaatee inaanu halkaa tegin. intaa kadib wuxuu u kacay airportkii balse wuxuu markii ugu dambeysay wacay lambarkii kaadhka ku dul qornaa. qofkii la hadlayay ayaa weydiiyey magaciisa, taariikhda dhalashadiisa iyo inuu rabo inuu ciyaarta ciyaaro. Guyon wuxuu u sheegay magaciisa isagoo ka yaabiyey ninkii la hadlayay. intaa kadib Guyon wuxuu u sheegay inaanu ahayn faras ay sharad ama khamaar ku dheelayaan. ninkii wuu aqoonsaday waxaanu ugu yeedhay lambarkiisii 456. wuxuu Guyon u sheegay inuu duulimaadkiisa iska sii wato oo uu diyaaradda fuulo ayna naftiisa u fiican tahay inuu noloshiisa iska sii wataa. Guyon wuxuu ninku u sheegay inaanu weligii cafin doonin dadkii ku sababay inuu ciyaartaa ciyaaro. wuxuu jaray teleefankii dib ayaan u noqday isagoo go'aansaday inuu ciyaartaa soo gabagabeeyo oon dib loo ciyaarin. siisankii koobaad ee taxanahani halkaas ayuu ku dhammaaday. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Faarax ah. tan iyo kulankeena kan xiga ammaan Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.